Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud haddii ilaahay idmo marka uu aqamayno su'aalihiisa iyo jawaabihiisa waxaa muhiim u helayaa su'aal ku weydiiyaan waxaan rabaa inay su'aalahaas ka tarjumaan diblomaasiyadda iyo doorashooyinka iyo wixii xiriir la leh oo ay macquul tahay soo dhawaada waxaan rabaa marka hore inaan 5 daqiiqo siiyo si uu موضوع iyo wuxuu aragtidiisu ay tahay iyo wixii uu ka way aragnimadiisu ay tahay soo hadlo soo dhaw madaxweyne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markale waa ka mahad celinayaa Dodson Forum iyo akhyaarta muxuu ahaay ka soo qayb gashay timidba waa salaamaya salaan ka gadaal sida mawduuca loo sheegay waxa waa diblomaasiyadda iyo doorashooyinka waa laga yaabaa dadka inay siraadaan laba arrimood oo cilaaqaad lahayn waaye sidee la soo keenay laakiin waa on sibay cilaaqaad u leeyihiin siyaasad kasta oo dalka gudihiisa ka jirta wax kasta oo dalka qoseey cilaaqaad la leedahay diblomaasiyadda dabcan dadkan meesha fadhiya dad fahamsan weeye waxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dal leeyahay waxay ka bilaabataa meesha siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaas ay ku dhamaato siyaasadda arrimaha gudaha ee dal uu leeyahayna waxay ku dhamaataa xuduudihiisa siyaasadda arrimaha gudaha kaba baxdo xuduudaha dalka meeshaas xuduudeena ah wixii ka baxsan ayaa siyaasadda muxuu ahaay arrimaha dibadda ay ka bilaabataa marka taasi waa sida caadiga ah marka labadu kalama waxaysna kalama xirna kalama go'na cilaaqaad ayay leeyihiin laana siyaasadda arrimaha gudaha sida ay tahay baa siyaasadda arrimaha dibaddana ay ka turjumay siyaasadda arrimaha dibadda waxay gadaysaa waxa wanaaga ah ee gudaha ka jiro baahida gudaha ka jirto aragtiyada gudaha ka jirto ayay gadaa wax aan maxaa dalkii shaqo ku lahayn oo gooni ah oo ay gadama jirto sidaas daraadeed annagu Soomaali haddaan nahay khaasatan waxaan annagu gadaynaa u weynaa laba mabda oo mabda inaan arrimaha dibadda inaan ka gadno siyaasadda arrimaha gudaha ee ka turjumaysa dadka Soomaalidu inay nabad ku wada noolaadaan oo ammaan iyo nabad ay ku wada nool yihiin iyagu iyo inay dariskooda nabad kula noolaadaan iyo inay caalamka nabad kula noolaadaan marka qaybta koobaad oo inaan nabad ku wada noolaana oo wanaag iyo qurux dalkeena ay ka jirsato waa midda koobaad taasaan iib geynaynaa adduunyadana aydan kula noolaanaynaa dariskeena aydan kula noolaanaynaa laana adduunyada hadda maanta cawlamada noqotay ama carro edegsan noqotay lama kala go'na arrimaha darisyadu kala ma go'na waa amnigooda isku xiran dhaqaalahooda isku xiran wax badan isku xiran marka arinta muhiimka ee la gaday waa taas qodobka kale oo noo gaar ahay oo intii aniga aan xafiiska joogay waliba mabda noo ahayd waxay ahayd Soomaaliya inay dibadda cadow ku yeeran waxa la yiraahdo zero enemy outside dibadda inaanan cadow ku yeelanin Soomaali haddaan nahay cidii aydan cadaawaysanayna sharsanayna dhibaataysan wixii waa guuni laakiin annagu in aanan abuurin jawi aan colaad iyo cadawtanimo ay nagala dhaxayso dalalka dibadda xuduudaheena ka ama dariskeena aadaan ama gobolka aadaan ama qaaradda ama maxaa caalamka aadaan intaasay bilow ka ahayday iyo waxyaabo kale badan oo dhab mabaadida marka laga yimaado istaraatiijiyooyin iyo policies ay jiray lagu dhaqmay oo dalkaani ilaa haddana wali qaarkiis u nool yihiin aad iyo aad u maasantiin doodaan waxay ku saabsan tahay sidaas aad sheegtay diblomaasiyadda iyo doorashooyinka waxaan ku hormarinaa diblomaasiyadda iyo intii aad xilka haysay iyo kadibba sidii xaalku ahaay waxaan rabaa 60 sano ayaa waddanku jira oo xiriirkiisa dibadda hadba uu meel joogay markaas maxaad ka sheegi kartaa marxaladii ugu muhiimsanaa waddankaani
marxaladii ugu fiicnaa ee dhinaca xiriirkiisa diblomaasiyadda dibadda uu soo maray intii aad xilka haysay iyo ka hor iyo kadibba maxaad xasuusataa 1 2 3 siyaasadda arrimaha dibadda dal kasta ahi taariikh uu leeyahay taariikhdiisaasay ka mid tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda annagu taariikh fogaan leenahay taariikhdaasi qarniyaal ka hor ilaa axmed gurey waagiisa laga soo bilaabo siyaasadda arrimaha dibadda wayna khuseynayeen marba si unbay noo khuseynayeen waagaas iyo waaqicii jiray ayaa mar walba aan la macaamilaynin xilliga gumaysiga sidoo kale xilligii maxaan ku ihahdaay xorriyadda aan qaadanay oo dowladnimadeenna ay bilaabday jamhuuriyadda koowaad 69 sano ugu horreysay sibay ahayd 21 sano ku xigday si kale ay ahayd 30 sano ka dambeeyna siyaalo kala duwan ayay lafsadeeda ahayd marka siyaasadda arrimaha dibadda ama ha guulaysato ama dib u dhac ha ku yimaade waxay ka jawaabtaa xilligaas markaas lagu jiro iyo waxa jira caalamku sidoo u nool yahay duruufaha dalka gudihiisa ka jira sida ay yihiin ay mar walba ka turjumaysa marka hal siyaasad dibadeed oo dheer ma jirto waa taariikh dheer oo tixana oo mid walba sideeda in looga hadlo u baahan waayahan dambana siyaabo kala duwan ayaduna ay soo ahayd laba awood waa weyn jirtay adduunka waaso inaad la yiraahdo sidee u saameynayeen xiriirkeena dibadda haddii aan waarsa ku tirsanaa iyo haddii aan ku tirsanaa sidee u saameynayeen xiriirka iyo cilaaqaadka dibadda ee waddanka sida aan hore u tilmaannay waxa waaye 1960kii markaan xorriyadda qaadanay dal dimuqraadi ah doorashooyin ay ka jiraan dhaqaalihiisu soo qoxorta uu yahay dadkiisu ay 100% muslimiin yihiin ayaan ahayn siyaasaddeena arrimaha dibaddana mabaadidaas noocaas ayay badanaa ay ka jawaabaysay waxaan cilaaqaad fiican la lahayn dowladaha aan dhaqankaas wadaagno markaas jiray aan dimuqraadiyadda aan wadaagno soo qoxorta aan wadaagno oo waxyaabahaas aan wadaagno dhan ayaan la lahayn hase yeeshee siyaasaddii berigaas xorriyaddii aan qaadanay ka dhalatay dastuurkeennii muxuu ahay iyo siyaasaadkii ugu horreeyey ee dowladdii ugu horreysay ay yeelatay ka mid ahayd ayaa waxay qaabeynayeen siyaasaddeena arrimaha dibadda dowladdeennii dhalatay waxay mabda'iyan ku socotay 60kii si socodkii xorriyadoonka gobonimadoonka in dalalka soomaalida maqan la soo ururiyo soomaali weyn in la abuuro soomaalida qowmiyadda soomaalida ee geeska afrika ku dhaqan oo dhan hal dowladeed oo soomaaliya la yiraahdo in la hoos keeno ay ku wada hoos noolaadaan wax badan aad ayay marka ay u hagaysay siyaasaddeena arrimaha dibadda arrintaas waa taan 64 dagaal la galnay Ethiopia waa tii 67 annaga iyo Faransiiska aan aad isugu xumaanay oo Djibouti baraayada ka dhacday ka sii hor 63 waa taan cilaaqaadka u gooynay dawladda Ingiriiska arrintii NFD daraadeed marka siyaasaddeena arrimaha dibadda waxay ka jawaabaysay siyaasaddeena arrimaha gudaha ee ahayday in la abuuro qowmiyad Soomaaliyeed oo ku hoos nool dawlad Soomaaliyeed shantii Soomaaliyeed mideynteeda markii dhamaatay oo wajigii labaad la galay oo kacaankii uu dhashay 69kii waxa soo dhan waa la laabay laakiin arintii Soomaali weyn iyo raadinteeda ahayd way sii jirtay markii hore hadaa xasuustaan madaxdeena Allahu naxariista prime minister markuu ahay Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo markii maxaan ku raadaay Allahu naxariista isaguna oo cigaal oo prime minister ka ahaaba waxa kamid ahayd Soomaaliya waxaan raadinaynaa dalalka maqan ee Soomaalida ah si nabad ah ayaan ku jirinaynaa gacanka markuu yimid dalalka maqan ee Soomaalida waxaan ku jirinaynaa ayaa isbedeshay oo wax lagu raadinayay oo ku saleysan istaraatiijiyada taasa keentay dagaalkii 77 inaan Ethiopia mar labaad la galno ruushkii oo berigaas cilaaqaadkeena oo meesha ugu sareysa Afrika wadamada isugu fiican aan ahayn inaan isweyno kuwa kale cusub oo booski galana waan weynay dagaalkii qaboobay adduunkana waa xoog badnaa marka sidaas ayaa diblomaasiyadeena arrimaha dibadda xoogaa waa taariikhdeena ma gaafiyeen waxa la yiraahdaa Soomaaliya markastoo ay dagaal gasho military ahaan waa guulaysataa
laakiin diblomaasiyad ahaan ayaa looga guulaystaa guusha kama dambaystaana diblomaasiyadday raacdaa marka diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda sidaasay muhiim u ahayday waagaasi xoogaa qalal badana naga galay ruushkii inaan beerdaraynay beddelkiisa aanan helinne ilaa wixii ka dhashay ilaa burburkii 90kii loo sababeeyo in ay jireen marka lagu daro siyaasaddii arrimaha gudaha ee dagaalkaasi oo kadib ka dhalatay kadib siyaasadda arrimaha dibadda marka ay xasiloon tahay oo degan tahay oo wadamada dariska si nabad ah oo degan wadanka ula nool yahay maxay uga muhiimsan tahay marka wadanku uu ku jiro cilaaqaad maado daris la dagaalo xiriirkii inuu gooyo maxay siyaasadda dibadda oo degan muhiim u tahay wadamada noocan ah kana oo kala Soomaaliya horta siyaasadda arrimaha dibadda waa saan hor u sheegay mar walba waxay ka jawaabtaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo duruufaha dalka markaas ka jira dabcan hoggaanku wuxuu leeyahay raadkiisa institutionska dastuuriga ay jira waxay raadka dhaqanka ummaddu wuxuu leeyahay raadka laakiin siyaasadda iyo duruufta dalka dhexdiisa ka jirta ayaa aad iyo aad saameyn ugu leh waxa dibadda ka jira duruufta iyo waxa dalka gudihiisa ka jira waxaa ka mid ah habdhaqanka hoggaanka iyo dadka hoggaanka haya ma aha kaliya hal qof balaakin institutionska dastuuriga dalka ka jira hoggaankooda iyo sida ay u dhaqmaan qaybay ka tahay shuruucda jirta kuwa xooggan kuwa aan xoogganayn kuwa aan cadcadayn dastuurku meesha waxyaabo badan horta waxay jira laakiin waxay tahay labada dhinacba waa laba traffic labada dhinac u socdo waaye haddii siyaasadda gudaha ay degan tahay siyaasadda arrimaha dibadda inay guulaysato ayay u dhowdahay haddii siyaasadda arrimaha gudaha ay guulaysatana waxay dib ugu soo noqotaa arrimihii gudaha oo ay dib u saacidaa haddana in ay dhismaan waa qaacido caadi ah laakiin duruufaheenna annaga dal soo kabanayo ee ka soo baxaya burburka markay tahay siyaasadda arrimaha dibadda aad iyo aaday muhiim noogu tahay laanna soo kabashadaasi ayay qayb weyn ka tahay sidaan u iibgeyno duruufaheenna iyo baahideenna ee gudaha ka jirta adduunyada waxaa taariikhiyan waxaa la yidhaahdaa dal sidii Soomaaliya oo kale burbur ku dhacay dawladda ay ka burburtay ee dawlad fashilantay magaca qaatay ee haddana dib u soo kabtay ee soo galay stageka ama heerka ah dawlad nugul ama fragile state waxa la yiraahdaa galay oo kaligiis inta dhibaatooyinkaas oo dhan ka baxay istaagay oo cagiis isu taagay ma jiraan dal kasta oo duruufahaas ay la soo gudboonaadeen waxaa soo garab istaagay kaalmo caalami ah kaalmadaas caalamiga mid dalal saaxiibo ah ay siiyeen ha noqoto ama mid multilateral ah oo dalalku isku tagay sida jamciyadda quruumaha ka dhaxayso kale ay siisay ha noqoto laakiin sida badan dalalka burbur ku dhaca kaligood iskuma filna inay soo baxaan annaguna dadkaasaan ka mid nahay marka maadaama aanan annagu isku filnayn oo aan kaalmo caalami u baahannahay marka laga baahannahay asal noo ah siyaasad arrimo dibadeed oo aad iyo aad u degan dulqaad badan leh ee furfuran soo dhaweyn iyo qadarin badan leh inaan la nimaadaan u baahannahay oo aan meelo badan siyaasaddeena arrimaha dibadda aanay qab iyo maxaan ku iraahdaa emotions iyo caatifada iyo aanay ku salaysnaanin sidaasa waxaa lagu heli karaa markaad siyaasaddaada arrimaha dibadda siyaasada waxaad iib geyn kartaa baahidaada oo aad u iib geyn kartaa si lagaaga aqbalo dhaga ku aqbali karaad helaysaa laakiin markaad kuwana dal aad la dirsan tahay kuwa aan la dirsanayna qofkaan dagaalka ku jira bal u kaadi ay is yiraahdaan waxaa kugu adkaanaya inaad saaxiibo caalami ay yeelato waxaa kugu adkaanaya inaad kaalmo caalami ah hesho waxaa kugu adkaanaya in faragelinta mideeda xun oo dhibka badanna aad ka badbaado yaa kugu adkaanayso inahaasoo dhan ayaa markaa deganaanta siyaasadda arrimaha dibadda ay muhiim ugu tahay dib u soo kabashada iyo dib u soo noolaashada dal ee ka soo baxaya burburka 4 sano oo muddo xileed ah ayaad waddanka ka ahayd
maxaad is leedahay waad ku dartay adiga iyo dowladdaadiiba siyaasadda arrimaha dibadda wal annaga horta inta hadda sheegaya oo principles ah intii aan kari karnay yaan ku shaqaynaynay Soomaaliya inay cadow dibadda zero ay ka ahaato oo cadow dibadeed aanay yeelanin taas waxay naga saaciday inaan dalkan dhaxdiisa aan la isku qabqabsanin oo aan quwada ajnabi aan isku dhaxdiririn waagi 4 sano oo annaga aan joognay dal caalamka col nala ahay ama annagu aan la ahayn ma jirin oo aan ka ahayn cilaaqaadkeennii Iiraan oon cilaaqaadka u jarnay markaas sababtii aan ugu jarnay sabab cad ay ahayd annaga khilaafaan haysto cadawaan haysto diin noogu soo dugaalay Iiraanna yani tashayuc shiicayn ay dalka ka wadeen raggeedii diblomaasiyiinta ahaa oo magaceeda watay wixii xaqaa'iq cadna waa loo hayay in ay dalka ay ka wadeen shiicayn kadibna wada tashi badan aan ka galnay hadday yihiin golay wasiirada hadday yihiin baarlamaanka hadday yihiin culamaa u diinka bulshada rayidka dad badan la wadaagnay oo aan u sheegnay keena aan effect gareeyay sidaas oo ah inta kale khaliijkan maanta is haysto waa saaxiib aan la wada ahayn Saudi Arabia saaxiib aan la ahayn Imaaraat waa la ahayn Qatar waa la ahayn Kuwait waa la ahayn Saudi Arabia cilaaqaadkan meeshii meel ugu fiicneed mudooyinkan dabo dhamo gaaray ganacsigeena meeshii ugu weyneed uu gaaray 2015 5 milyan oo neef oo xoolaha ayaan Saudi Arabia u dhoofinay oon hore u dhicin ka bacdina aanan dhicin يعني ganacsiguna wuxuu yimaadaa markii cilaaqaadku hagaagsan yahay meeshan oo Iiraan warbaahinta qaarkeed waxa ay daabacday inaad isku hay weyseen xiriirka Iiraan iyo ka Sacuudiga taas maya sax ma ahan waa run Iiraan iyo Sacuudiga way isqabteen qunsuliyad iyo diblomaasiyiin Sacuudiga ay leeyna meesha lagu gubay taas de mowqifkeena waa cadaay wixii saxda naga aan ka aadnay sidoo kale dalal kale oo Yurub Sweden iyo Sacuudiga isqabteen qadiyada isku qabteen mugaan fiirinay qadiyada Sacuudiga ayaa saxna la ahayd waa taageernay Mareykanka iyo maxaan ku raahay waxa isqabtay dal kale sidoo kale waa taageernay Mareykanka mowqifkiisa saxna la taas macnaheedu ma aha laakiin annaga Sweden cilaaqaad ma kala goosanin barigaas qunsuliyada Sacuudiga la gubayna anaga Iiraan cilaaqaad ma kala goosanin mana kala tagin waa isla joognay kadib qadiyadan ay dhacday geeska Afrika 2018 waxa isbedelay hanaankii dawladeed ee ka jiray Ethiopia waxa yimid Nabiyada Abiy Ahmed wuxuu leeyahay wax la isdhexgalka geeska Afrika hadaa xasuusato sheekada qortay oo ku qortay Foreign Affairs ala afkar ama hal maqaal oo saabsan arrintaas waxa dadku geeyay oo siyaasiyiintu u yihiin oo ka xidhiidha isdhexgalka geeska Afrika oo loo sheegay ka mid مبدئيا إن إصدحقل لسميها وفيعنته إن إصدحقل كدقالها إيو دقالها إن لقمدو إيو حدودها إن لسكفر إيو تسهيلات بدن إن لسميها وبداعدها دقاقو إيو دادك دقاقيس إيو wax badan in maxaan ku raadahay waa arin oo mabdiyan aad u fiican anigana aan taageersanahay intii oo macna maskax furan oo dhan ay taageeri karto laakiin waxa waaye dadka wax isku darsanayo waa inay dad oo ila xaddi waa simanyiin hadaan la dhigin xataa isu dhigma waa in la dhigi karaa dad isu dhigma negotiation wada xaajoon kara waxa laga wada xaajoonayaa ay qolo walba ay rabitaankeeda miiska soo saari karto ogolaan karto diidi karto laakiin marka aadan lahayn awoodihii iyo toolski ama aaliyaadkii aad ku negotiate gareyn karto wax ku diidi karto wax ku ogolaan karto wax ku bedeli karto marka aadan lahayn in aad ka qayb gashid partnershipka sax ma aha ko tartiib ay waxaan ay u bilowdaan ayaa habboon Soomaaliya duruufo gaar ay ku sugan tahay ilaa ay meel oo mucayyana ay soo gaarto aniga waxaan qabaa ma ka qayb gali karto isku milanka isdhaxgalka sidaas ah ma ka qayb gali karno laana awoodeena diblomaasiyadeed awoodeena muxuu ahay dal awoodeena qarannimo intaba wali waa duruufo gaar ah ku sugan ay dhibaataan haysato inaan ka baxno u baahanahay
marka dalal dhisan oo wuxuuda ay dhisan yihiin oo siyaasaadkooda oo dhan ay dhisan yihiin oo wuxuu dhisan ma ku milmi karno weliba dhinaca siyaasadda waxaa kaloo nasiib darro ahayd dowladdeena inaanay noo sheegin oo aanay public ka dhigin waxa uu isku darsankaas iyo isku milankaasi waxa uu yahay oo aanan ahayn in aan xog ka helno madaxda kale ee dalalka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego waa la isku darmayaa yiraa afar dekadooda Soomaaliya la siinaa yiraa siyaasaddan ka midoobayna yiraa hal baasaboor aan yeelanayna yiraa laakiin marna madaxdeenu inta dadka soo hor fariistaan mashruucaana socdo sidaanuna yahay meeshaanuna la rabaa inuu gaaro danahaanan ka leenahay nalooma soo bandhigin wali marka article-ka aad sheegtay oo cinwaankiisu uu ahay Soomaaliya waa inay horta lugaheeda isu taagtaa intaanay meel kala gelin fikirkiisa intaas uu ahay لقون إيو تضبيط مركي حلقة أتكدكتي إمسا وردن أيا علاقاتك صوماليا هجاجسنا إمسا وردن أيا وردن أمو حما أمو سجن ما دلك أنا قررت وما إيمان دلال الله أهو هذا الله درسن أنا وما إيمان دلك أنا هالعدو لا مركان إيماني يقولين وعليه هاي والشباب عدو كله وهذا أنا نقول تاجن مركز الصومالي كتاجن أون أقول نمدا ماشوا أنا دجال كيسي إن نسيو قدنا أنكو غصبون أنا مجرد لكن مدة حل اللي كلبوك هاي كمل جارك إن كجرني أيها وحي سبب يصير دلال بدن هنا علاقاتنا ليانا دلال كولي بواوين أو كالمة الصومالي بيسكرة أو عالم كم حانكو هذا رات كله markaan aniga iimaanayay safaarada dalka joogay safaarada Itoobiya waa joogtay safaarada Liibiya waa joogtay Yaman waa joogtay adiga dhowr safaaradood aa joogay oo dalalkaas muxuu ahaay sidaas ah safaarada Djibouti dabcan waa joogtay iyadana sidoo kale annaga markaan nimiday oo ku meel gaarnimadii laga baxay laakiin waxa soo bilowday markaa safaaradaha reer galbeedka iyo safaaradaha carabta intooda badan oo 40 safaaradood in la mida gaaray oo aan anagu warqadii aqoonsi ka qabtay aniga oo dalka dib u yimiday safaarada ka furtay ama magaalada ka furtaan ama muxuu ahaay xalana gudiisa ka furtaan taasi marka daliil waxay u ahaday yaani horumarka diblomaasiyadeena ama siyaasadeena arrimaha dibadda ay gaaraysay sidaas daraadeed annaga waxaan sameynay siyaasad arrimo dibadeed oo qoran oo la yaqaano foreign policy qoran oo la yaqaano oo ilaa maanta website-ka wasaaradda arrimaha dibadda haddii la galo ku jirta qof walba waa soo download garaysan karaa waa arki karaa siyaasad arrimo dibad oo qoran oo meel loo raaca leh oo hadhow waa ka weecateen iyo waa la qalloociya la dhihi karo documented ah markii ugu horeysaan yeelanay muddadii ka dambeysay muxuu ahaayey dawladii burburkii dawladda oo dhan sidaas daraadeed annaga mabaadidaas aan hore u soo sheegay aan hageysay dalka intaas timid nasiib darro dalalka diblomaasi caalamiga maanta Soomaaliya adduunyada sida ay relevant uga tahay diasporadeena ama qurba joogteena dal kasta joogta oo ku nool oo talo ku leh oo siyaasiyiinta dal kasta ay codkooda rabaan oo ay Soomaaliya maxay ku waxaynayaan oo u baahan tahay Soomaaliya inay ka faa'iideysato sidaas daraadeed dal walba in uu safaarad ka furto Soomaaliya uu yimaado gadaala laga soo riixayay oo ama diasporada ha noqoto ama ha noqdo yaa kalifi annaguna dalalka caalamka oo dhan waa soo wada dhaweynay waana waxayna مثلا dalalka qaarna waa xiriir caalami ah oo caadi ah nagala dhaxeeyo qaarna waa strategic qalneenay una taabanaya oo si toos ah u taabanaya qaarna waxa laga yaabaa inaanu taaban ama si dadban noo taabto مثلا dalka 2017 aniga xafiiska waxaan ka tagay annagoo dal aan cadownahay oo nala dirsan aanu jirin waxaan ka tagay dalalka istaraatiijiga ah oo muhiimka noo oo dhan annagoo cilaaqaad la leh oo safiirro dalkooda ka socda ay noo joogaan safiirrana ay noo jiraan annaga ugu yaraan annagu ay safiirro noo joogaan dalalkaas Saudi Arabia safiir noo joogay imaarada uu noo joogay maxaan ku iraahdaa dabcan Qatar waa noo joogay Kuwait waa noo joogay Masar waa noo joogay Masar waliba safiirka noo joogay safiirka Masar iyo wakiilkeena jaamacadda Carabtu ahay maanta Masar safiir nooma joogo macnaheedu waxa waaye jaamacadda Carabtana wakiil nooma joogo
maanta sacuudi araabiya safiir nooma jiro ganacsiga iyo horumarkii waxaan sheegaynay annaga sacuudi araabiya si u socda lama yaqaano shaqaale intaas la eegoo soomaali ah jooga sacuudi araabiya oo ka xamaasho ka shaqaystahay kama warqabi karno haddiiba safiirkii aanu joogin qunsuliyadaha iyo maxaan ku diblomaasiyadda kale wax badan ay qaban karaan laakiin safiirka waayo qofka sidoo kale maxaan ku raahdaa imaaraadka carabta Abu Dhabi maanta safiir nooma jiro ayaga safiirkoodu waa joogaa laakiin annaga nooma jiro sidaas daraaddeed waa dareemi kartaa maanta safiirada ama dalalka istaraatiijiga cilaaqaadka lana waa Ethiopia Eritrea waa siyaasadda dawladdeena leeyahay wax kale aniga uma arki karo annaga dagaal hadda weyn oo Sacuudi Arabia nooga yimiday ama aan ognahay oo Masar nooga yimiday oo colaad nagu qaaday oo nagu annaga waa jirno waa maareey Sacuudi Arabia waxaan leeyahay Masar iyo Ethiopia waa is haysteen webiga Nile waa isku haysteen waa joognay labadoodaba cilaaqaadan la leeyahay waxaan ku raadaay Imaaraad iyo Qatar waa is haysteen weligood cilaaqaadkooda 100% ma ahayn waana la joogay labadooda safiirada waa muujin safiirada intii loo joogay isku maanaan haysan maxaan ku raadaay Sacuudiga sidoo kale waxa ay u baahan tahay waxay tahay annagu inaan ku dhaxmilmin waxyaabo qaarkood oo aanan aad u dhaxgelin oo aanan u muuqanin in la kala safanaay ma marka qaarkood la safashadu steps cad oo muuqdo la qaado ma ama waa perceptions ama waa diblomaasiyad qarsoon oo aan la arkaynin oo dalalku ay isla fahmayaan oo ka soo muuqato laga arko way marka muxuu ay Kenya annaga qadiyadaha ugu waaweyn aan dhaxyile Kenya annaga Jubbaland waa ku kala aragti duwaneen laakiin Jubbaland annaga Kenya kalama heshiinina Jubbaland aan kala heshiinay iyo dadka reer Jubbaland aan kala heshiinay maraan kala heshiinay sidaan u heshiinay ku dhamaatay Kenya annaga qadiyada weyn oo la garanayo oo badda aan dhaxtiilay laakiin weligan cilaaqaadkeena mana kala go'in mana ciriiriyoobin Kenya annaga masaalixan ku kala duwanaana diyaaradooda jaadkan joojinay wax badan aan waxayna annagoo markaas wax kale kuma kala duwanaanine shirki wasiirada arrimaha dibadda igad oo wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo hormuudka ahaa meeshan yaa jiray reporter oo ka ahay waxa yilay head of states ki igad oo dhama meeshan isugu yimiday oo madaxweynaha Kenya oo kamid ma qabin dalalka dhan cid dib nagu qabta ma jirin sida standardka ee adduunyada u macaamisho oo xadaariga oo dalna aanu diidi karin yaan una macan dalalku qaarna diblomaasiyadda caadiga ah in la ilaaliyo u baahan kuwii oo strategic maxaan ku rahay interests idin ka dhaxaysana si gooni waa u macaamil kartiin laakiin waa inaan mar walba xasaasiyadka la ilaaliyaa waxyaaba qaarkood in la siyaasadeeyo oo public loo sheego oo maxaan ku raadaay laga dhigto muxuu ahay political platform madaxdu ay sharaf iyo heybad ay ku raadinaysa ma aha consistency ama joogto siyaasadda diblomaasiyaddu waa inay noqotaa 2007 ilaa maanta waxaan arkaynaa diblomaasiyadeena dalkii shalay aan saaxiibka lahayn maanta la dirsanahay kii shalay aan la dirsanayn maanta heshiis la nahay kuwa kala daraadood u la dirsanahay waxaas meel ay diblomaasiyadda uga qorantaa ma jirto taas waxaan rabaa inaan diblomaasiyadda ku joojiyo dhinaca doorashooyinka fahamkaaga iyo xogta aad hayso waxaa laga yaabaa waddanka inaad ka qortay macluumaad aad sheegto iyo kuwa aad sheegi waa haysaa aragtideeda ma kula tahay arrinta Jubbaland waa dowladeedii xilligii adiga aad joogtay dhismay 2013 ka horna u dhismay qaab oo aan habboonayn maxaa ka dhexeeya doorashooyinka iyo cilaaqaadka Kenya ee Soomaaliya fiiri gurigaaga albaabkiisa dad oodan weydo qof walba jidka maraayo oo shay fiican uga dhex jeeda gurigaaga waa ku soo leexanaya waana soo gelaya adaa laga rabaa guriga horta in albaab u yeelato oo oodato ilaashatan waa qodob faragelin adduunyada waa la iswada faragelina aniga jasiiradan kaliya ku noolahay leema faragelin karo maaha annaga adduunyada waa faragelinaa si fiican iyo si xun midaan ku faragelinaba shabaabku faragelinta adduunka ka mid yihiin iyo argagax waxaan rabnaa marka Jubbaland dawladdan nidaamka federaalka qaadatay ee urdanka ah
dhismayso isku dhacdhac iyo kala ra'yi duwanaansho isdiidma laga ma waynayo shalay soo jirtay maanta waa jirtaa berrida dhowna waa jiri doontaa intii ay ka adkaanayaan oo rukumo adag ku istaagaan ay ka helayaan institutionskeena dastuuriga ah annaga marka taariikhdeeni dagaalada sokeeye 30 sano la soo dhaafay marka dib u milicdood fiiriso waxa ku jirta ama xataa markii burburka uu soo bilaabanay 80meeyadii nin kasta oo Soomaali ah oo carara oo xuduudda ka gudba oo cid kale oo banaanka ah magan gala u orda ama magan u galo ama kaalmo iyo xoog haga doontee nin kale oo Soomaali ah qof kale oo Soomaali uu ka cararay iskama jeclaan iskama caashaqin kumanaanki milyanka qof ee qaxooti ku noqda Kenya dalxiis uma tagin Kenya Soomaali kale oo dalkan jooga ama dawlad ha ahaado ama si kale ha u xoog badnaadee eriyay ayaa xuduudda ka gudbiyay madaxdeennii qaarkood oo 1977 Ethiopian dagaal la galnay meel xunaan kala gaarnay ciidamada Ethiopian jibinay cadaawad badan dhaxday waa fogeynay bila gudahood saraakiishii ciidamada Ethiopianka jibiya ayaa carra xuduudda ka gudbay Ethiopia magan galay Soomaali kale ka cararayeen jacayl caashaq Ethiopian u qabaan uguma tagin arrinta marka waxa waaye siyaasadeena arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado Jubbaland wax eeda iyo madaxdeeda ay ku leeyihiin ma leh ayadoo area ayaa loo geliyay Kenya ayuu cararayo oo naf bidayay tageen berrina kuwa kala laga yaabaa Ethiopia inay naf bidaan maalinta kuwa kala laga yaabaa xuduudda ka Djibouti inay naf bidaan maalinta kuwa meel ka sii fog inay naf bidaan mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso ee qabkooda marka qaarkood iyo dadka waa midda dhabta ah oo xaqiiqada ah oo maanta in la turjumo u baahan ma aha hebel ajnabi iska jeclaaday xagga aadaya caashaqaya keensaday ma aha Axmed Madoobe iyadoo loo yaqaano hogaamiyaha Jubbooyin ayaa ka tirsamaayo dalqadeed waxa uu yeertay madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha waxa ku naqanay baarlamaanka doorto oo dadku ah markaas sidee u suura gashay iyadoo hogaamiyadiisa ogol yahay in aad Kismaayo tagto aad tiraahdo madaxweynaha Jubbaland wuxuu ogolaayay waxa kale horta waxa waaye ogaal badan kaaga maqan waxay u baahan tahay in la ogaade waxaan rabnaa annaga ninka madaxda ee mas'uulka ah ee qarankan soo kabanaya ee duruufaha adag ka soo baxaya inuu isku hayo isku keeno isku soo celiyo loo baahan yahay wax badan laga rabaa inuu xeeriyo qulubta dadkana waa waxaasi ma aha dadka waxa la yiraahdaa dadka farqahooda la isku xiri kara ee qalbigooda la isku xiraa annaga markaan Axmed Madoobe madaxweyne waay aan dhahaynay dadka reer Jubbaland qulubtooda aan ka shaqeynay inaanay cararin oo aanay Kenya ka soo jeesan waa ka keenaynay Jubbaland dhismaheeda ayadoo karin xaafadda la yiraahdo Nairobi ku taalo looga hadlo oo shirkeedu ka socdaan aniga xafiiska imiday September 2012 markii dambana isku daynay waxaan ku qanci weynay madaxdii joogtay inay noo yimaadaan halkan noogu yimaadaan oon wada hadalnay naga diideen inaan u tagno oo aan meeshooda kula hadalnana waa naga diideen xaajadii markay meeshaas marayso waxaan go'aansanay inaan weydiino dhaana maxaa rabtiin waxay dhahan dibadda inaan ku wada hadalna rabnaa soo hadalno markii u dambeysana aan dibadda aan dad Soomaaliyeed aan kula hadalno dibadaan tagnay waa soo heshiinay gudaha ku soo noqonay heshiiskii sidii loo implement gareynay kalsoonidii mar walba meel u soo gaaraysay meesha say gaartay Axmedna maalintaas isagu wuxuu qabay in la doortay dadkiisu doorteen baarlamaan doortay uu qabay annaga baarlamaankana aan shak ka qabnay doorashada shak ka qabnay ul shaqaadis iyo jiidis waa isla gurgeynay haddii uu hogaamiye inuu ahaado oo nugula shaqeynayo laakiin madaxweyne inuu ahaado si ka sii fiican oo noola shaqeynayo sida fiican aan door bidnay sidaas ayaana muxuu ahay aan u aqbalnay asaguna waa qabiyo doodaas maalintii aan heshiinaynana waa qabiyo maalintii madaxweynaha dheer inta u dhaxayso dhan waa qabiyo aniga dadkayga ay doortay maxaanan u mudnayn inaan title-ka madaxweyne aan qaato
madaxweynayaal kala jireen marka annaguna dadka qulubtiisa ka shaqeynayna dibna kuma qaban inaan madaxweyne dhahno maantana wali in la yiraahdo ma qabno lianna nidaamka federaalka ah ee dhismayo ayaa waxyaabahaas oo dhan wato maalina laga yaabaa in laga gudbo title-ka madaxweynaha la bedelo magac kale loo bixiyo laakiin maalin walba wixii shaqeynaya laga shaqeysiyaa jubbaland markii ugu dambeysay cilaaqadii meeshii uu noo wada joogo ogtahay 2 bilood kasta madaxweynaha jubbaland asoo xamar yimaado oo NLFT kamida oo madaxweynayaasha kale oo sidoo kale ay yimaadaan jubbaland u gaar ma ahayn dawlad goboleed kastoo dhismaysay koonfur galbeed waa ogtihiin 6 gobol iyo 3 gobol wixii naga raacay galmudug waa ogtihiin wixii naga raacay muxuu ahaa dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo oo 3 maamul ay kala joogtay galmudugaa joogtay ximan xeebaa joogtay ahlu sunna wal jamaa joogay meesha ay kala taagneed oo ka keenay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa ogeydeen hiiraan state iyo maxaan ku iraahday iyo hiiraan aad kaliya dawlad goboleed iyo ma aha 2 gobol waay aan isku darno dibkii naga soo gaaray intii juhdi aan ku bixinay wax si sahlan loo keeni karo ma jirin laakiin annaga go'aansanay inaan qabkeena intaan hoos u dhigno dadkeena hoos u tagnay la fariisano oo daqaadis iyo jiidis waa isla gurigeyna waana gurikeena annaga waqtigeena waa maasan وحريق العلاقات ضلع هيئتها دستورية وطن حلقي الجوتي إبقى سواجري لكن وحشة شمقال هاي حلقي حتى البلان لو لا يكتو وحاجة تجيش سلوكا وحتى سياسة الفن dad badan fahmayo hadda fadhigan caawa xildhibaanada iga muuqda oo aad iyo aad waxaas u fahmay dastuurkeena waa ogtahay in bagaasi markii lagu soo heshiiyey oo dawladii ku meel gaarkeed lagu soo dhisay charter aan ahdi aan lahayn ahdi ku meel gaarka la dhijir 2012 markii halkan xamar la isugu yimiday erga Soomaaliyeed oo 850 inay ahaadaan jecelahay isku timiday dastuura la soo draft ah oo qabi qoraal ah la soo hordhigay waa ka doodeen dastuurkii waxay u ogolaadeen qabi qoraal inuu ahaado lagu dhaqmo ilaa laga bedelayo dastuurkaas laga dhameystiraayo sida loo dhameystiraayana dastuurka laftiisaas qabi qoraalka ah oo dastuurka qabyada ay ku taala sida loo dhameystirayo waxa kamid ahayd dastuurka ku meel gaarka ahayd ugu qoray maadaama baarlamaanka federaalka uu ka kooban yahay 2 aqal labadii aqalna aanay jirin oo hal aqal jiro halka aqal ay jiro oo golaha shacabka ahay inuu sidii labadii aqal oo kale oo u shaqeynayo oo sharci u leeyahay awooddaas la siiyay sidii loo qaatay golaha shacabku wuxuu u shaqeynayaa asagoo labadii aqal oo kale ayuu u shaqeynayay waxa kale oo dastuurku uu qorayay baarlamaanka sagaalaad in uu dastuurka dhameystiro oo afti loo qaado oo la hagaajiyo duruufii xaqaa'iq ay naga hor yimiday waa suurtoobi weys intaas inuu jiro macnaheedu wuxuu ahay dastuurka ku meel gaarka ee jiray inuu baarlamaankaas la eg yahay ku dhamaanay xilliga baarlamaanka inuu ku eg yahay oo baarlamaanka laga rabo kii kale inay loo gudbi lahay inay sameeyaan haddii kii kale loo gudbi lahay aan la sameynin kana waqtigiisa uu dhacayo maxaa imaanaya marka dastuur la'aan taasa marka annaga aan ka gudubnay oo aan wada tashi dheer ka bacdi baarlamaankii joogay loo geeyay in uu tacdiil ama isbedel uu ku sameeyo qodobadii dastuuriga ahay ee sheegaya dastuurkan waqtigiisa inuu intaas ku eg yahay inta laga gaarayo baarlamaanka markii horeba loo yiri baarlamaanka sagaalaad ayaa dhameystirayay dheen maadaama uu ka gaari waayay baarlamaanka tobanaadaan wuxuu shaqadii loo gudbiyay oo laga rabaa inuu dhameystiro baarlamaanka tobanaadna waa kan hadda jooga isagiina sababtu wax kasta aatee shaqadii ma qabsoomin ma qabanin shaqadii la qabalahay ma qabsoomin sababaha ay u qabsoomi wayso waa sheeko kale waa maraba inaan aad u galo ma qabsoomin soo meeshii aan taaganahay marka meeshii 2016 aan taagnayn ay dastuurka iyo dhinac walba
dalkan sidiisaba waxaan rabaa inaan dhaho 2016 meeshuu joogaa maanta dawlad ahaan 2016 dastuurka meeshii jooga nidaamka doorashada meeshii jooga nidaamka garsoorka meeshiisii jooga walax la taaba karo oo siyaasad ah oo dawladnimadii maanta waa lagu daray la dhihi kara ma jiraan waa sababta kaliftay doorashadii 2016 aan u noqono in la yiraahdo ayada oo 2016 aan ku wareejinay dadkii xilka nagala wareegay nidaam qoran oo soo jeedin sida oo looga bixi karo doorashada 4.5 iyo 2020 hadii la gaaro waxba laga ma qaban marka doorasho deegaankiina way badiyeen oo laba ka dhigeen beelan doorashadii وكادي أيدي أقول لي اسكو هايستاون أيدي الحقيقة منه horta dressing significant يعني معنى نحر ملها نحر سياسية وين كم جرت كنت قفوضة واحد دورني سبقولات دور دونتنا سيدو كلاواي نحر سياسية وين كم جرت لكن هذه أيضا لسيد هذانا أي سيد اللوجو تلاقى أنت لو سيد اللوجو شيء أنت الله مرسي الله دقن قليلا ما أنت أي واحد يشيسك وقري إني صوب باللودان والصداف مرة على الصداف مرة بعض على الصداف مرة حدا على الصداف إيدي يا بل السعودية ويا ما هذا ما بقى أيدي ما بقي مين هنا أيدي ما أنت ده سعون له أيدي أنا بربني أيدي يا بسعون ويدي مركب عن ربا لبكون اللي حتبنا جوجنا إرجان جوجنا دور شدة بنا جوجنا عاصمة دي دولة قبلات كان جوجنا قضايا شدة كان كوا جوجنا أنا قولي بوحنا كده دالنا إن أن objective يعني إن أن إحنا أنو أن وح شك جلي كرودن أن ضافنا ووحي reference ما لقى تحرع إن أن أقولنا قضايا شدة كان كوحنا أنا وأكوي بقول يصدر الشنتي وحي كنول وحي دنتين ولا بدلية هذا قضايا رقم ماذا لير قضايا رقم ماذا أنتوا قبل الله أنتوا كلهم ماذا ما أنت قف جرس من أمريكا شاكذا سوا شاكك كله ودبودع سياسات أو ضلك كذا عواية وحاج على الموضوع هذا بين كلا إن جوني كل جيساء أو عقوبة هي شأن يا شيخ عقوبة أنا قلنا لكن دستور يقدم صاري قدومي بارلمانك لبضع أقل بارلمانك مدحوينا وأرنتها سيئات وخصوصية يعني أنا كل هذا ورجينا يا إن أي هذي حسوسنا عين يكون جيران نومشيجن هذي نوشيج لهين هو شاسع جرت وكون جيران هذي لهين وعاموس لهين إن أنا هذا لنا من الله بعنا لهين لكن وحبنا لو مشيجن وحين وأوجينا ديتس كي تاريخ ذي أوجينا يو ما نقول بمحاسيس عطمرك إن أنا هذا لنا قصبان عني هذا الكين إن هذا إن لقاتي إن كلو ولي بأوجن إن أنا أرجع أمن الله شيء وجعلنا لهين إن كستو رلا وبارلمانك أو أرنتاس قدوميها قلها الشعب أو كهذا waxaana la jooga koox ka tirsan bulshada rayidka oo adiga laga yaabo inaad 8 sano 10 sano ka hor ka tirsanayd xukuumadda ma doonaysaa waxaan waa sameeyay jiray doorashada dib u dhacdo maxaa shaqaalaha dowladda gudiyada waa lagu dari jiray haddii aad tahay madaxweynuhu uu jeediyay maxaa anigu gaar maxaa lagu sameeyaa midowda musharaxiinta oo la iigu ceebeynaya wixii hore loo sameeyay jiray حاشا لله مدعونا إن لو عباية وحونا مضنين سحمة ما نجيران قباني عربا دور الشدي 2016 ضد كان ماشى فرديو خيارتا قار بدن وكميدهم قرني يعني مرقاتو قدقنيا لبكون يسد حيتان مركان نمذي لبكون إلا بيتهم آخر كيد يعني نمذي لبكون يسد حيتان وحان دعني أفر سنة وقت قابن وايه maxaa dhacay 4 sano markay dhamaanayso laana anagu taariikhan leenahay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan lagu soo doortay Djibouti 2 sano teeram la soo doortay labadii sano markay dhamaanaysay sidii ku dhamaatay waa garanayna si orderid ah oo nidaam ah oo xilkii la isku wareejiyo oo Soomaalnimo ah kuma dhamaanay kala orday ku dhamaatay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf la soo doortay teeramkiisa ma dhamaanay مدعونا الشيخ شريف أو ترم كيس دمستري ظروفي جرى أوجد وأكون دمستر موين كان بالا أكون أدوية دي عادي أنا جا وحا مركا أن كفكرني لبكون لحية طبعا سيدا سوكال إن أنا يدعين ما أنت شقدر أم بلون لبكون يسدح طبعا هيك سجل لبكون لحية طبعا فيشن 2016 لبكون يسدح طبعا على باللعبي
in la isku keeno dad Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa isaga yimid la yiraahdo aan dhex dhigno dhaano warshidee saan waa dastuurkeeni waa kan dalkii waa kan duruufihiisa waa kuwaana 2020 sidee uga gudbi karnaa shirkaas wuxuu soo saaray wixii lagu magac daray golaha National Consultative oo soo saaray Foreign Council oo 80 iyo 2 qof mise 82 qof ah oo qurba joogta iyo gobolada iyo maxaan ku raadayay bulshada rayidka dalka iyo dawladda iyo baarlamaanka inta ka wada kooban shiraray ku qabteen gobolada oo dhan ayagoo dadka weydiinayo sidee wax la yeelaa markay soo noqdeen shiray weyna la isugu yimiday waxay dhaheen 2020 doorashadii la rabay ma dhici karto infrastructure 2016 sorry 2016 doorashadii la rabay in la qabto lama qaban karo infrastructure keedii oo dhan waa maqan yahay laguma dhisi karo muddada dhiman maxaa la qaban karaa mugaas aad sheekadeedii meesha ka bilaabatay si rasmi official 2015 bilowgeeda waxaan u bilownay inaan dhahno muxuu ahay dalka doorasho kama dhici karto baarlamaanka dalka doorasho kama dhici karto maxaa ka dhici karo meeshaasaan horta ka soo bilownay annaga kugu soo booda ma ahayn mar walbana institutionska dastuuriga ay taladaas ku jiray national forum leadership iday ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka ahay xubin ka ahay golaha guddiga joogtada baarlamaankana mar walba waa la brief gareey jiray qadaayaadka waaweyn ee dalka ka jiro dhan waxaan rabaa marka inaan xuso meesha u dhiganta marka maanta teeramka aan joogno bishii July 2020 ayaa ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda maruu afkiisa ka sheegay doorasho kelmadda doorasho inay madaxweynaha afkiisa ka soo baxdo July 2020 ugu horeysay record waaye qofkii haya uu soo saari karaa madaxweynaha doorashadeena saanay noqonay 2000 iyo maxaan ku iraahday waxaa kaloo marqaati loo on the record ka gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari 2017 guddiga madaxa bannaan iyo baarlamaanka inuu inta shiriyay iyo gudiyada baarlamaanka ee maxuu karaa doorasho inta shiriyay inuu yiri 2018 doorasho ma dhici karta yaana la dhihin maanta wax cad balaan cad oo lagu gaaraya keena oo aan anaguna idin kala shaqeyno 2020 sidii doorasho u dhici lahayd haddii aanay dhici karin hadda ma dhici karta hana la dhaho ما دعين 2020 بيش ما قادا لي doorasho qof iyo cod ma dhici karo doorasho qof iyo cod aad dhacayso doorasho madaxweynuhu dadka dooranaya dhacayso doorasho inta aad dhacayso dadka confusion iyo walaaho iyo malaawal waxaan jirnaa lagu soo maaweeliyay maanta xaqiiqadii timiday meeshaan laga fursan karin waa ilaahay maadiis in maxaan ku iraahdaa bal xataa tii dad baneedo 2016 aan naqiinay ee ayadii hadda waxaan taaganahay iyadii ma suurta gali karnaa hadda baarlamaanka annaga dib baa noogu dhaco laakiin waa soo socday by this time October waqtigan xildhibaanada joogay December dhamaanaysa January la joogaa haddii xataa fiir doorashadii ama waa inay waqtigeedu ku dhacdaa ama xataa waa inay wadada ku soo jirtaa oo soo muuqataa oo la dhigi karo waa taa halkaas ay soo maraysaa meeshaas ay joogtaa waqtigaas yarka ha u dhimane waana soo gaaraysaa aan sugno xataa waa wax la qaada karo bil aan sugno usbuuci aan sugno 2 bil aan sugno 3 bil aan sugno saasay ku socotaa maanta meeshaan ay soo gaartay ama waxaana dhim wixii doorasho lagu qabalahay waa laga heshiiyay moralkii doorashada waa laga heshiiyay wixii annaga 2 sano aan ka soo shaqeyno dhibku lagu qaatay 2 maalmood aan looga heshiiyay waa dhamaatay meel uu yaala dhaqan gelintii waay hadda waxa la isku haysto bas guddiga ay ku dhawaaqday guddiga doorashada midowga musharaxiintu waxay ku dhawaaqeen guddi waxa uu tahay si fiican wala mas'uul laakiin uu muuqataa in yani masiirka iyo wadda mustaqbalkiisu gelaya muran ku saabsan inay laba guddi ay keeni doonaan laba badan taas uu muuqataa adinku maxaad ku dooratay guddi kala maya annaga horta waa hal mid in cadaataa la rabaa heshiiskii doorashada ee dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 madasha murashaxiinta iyo annaga tii nooga horeysay xisbiyada qaran madasha xisbiyada qaran waa taageernay documented way
heshiiskii bishii September magaalada Muqdisho lagu gaaray oo u dambeeyna waa taageernay mushkilada heshiiska iyo modelka kama taagna managementiga sidee loo maareynaa doorashadii waay wax la isku haystee la iskuma haysto heshiiskiina la iskuma haysto baarlamaanka federaalka la geeyaa ansixiyay waa taageernay wax aanu baarlamaanka ansixin yaa meesha yaallo waxa waaye habraacyada waay habraaca baarlamaanka federaalka ma ansixinin sharciyad ma haysto waxaan sharciyad haysanina wada ogolaashay u baahan yihiin waxa in dadka Soomaaliyeed inay fahmaan aan u baahannahay waatan nimankii uu ka dhaxeeya isla ogolaan la iska badhaaf annaga banaanka ka joognay nimankii heshiiska ku soo heshiiyay ee isla ogolaaday ee heshiis ahayo gaaray ayaan muxuu ahay protocoladan muxuu ahay aan isla ogolayn oo isku diidan maanta annaguna waa diidanahay waxaan ku diidanahay waa soo bandhignay taas waa baab marka dadka Soomaaliyeed inay aad u fahmaan aan rabo waay guddiga aan magacaawna guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka la yiraahdo horto guddi doorasho oo biri inay doorasho qabtaan loogu talagalay ma wax kasta oo doorasho dalkan inay ka dhacdo oo si nabada ay ku dhacdo keenaya ay ka shaqeeyaan cabsida laba madaxweyne la midowga murashaxiinta soo ma jirta ee dawladda madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ay jirtaa doorasho inay qabtaana laga rabaa inaan soo istaagno nala doortaan rabnaa doorasho ha qabtaan sheekada meesha ku xiran tahay dadweynaha waxaa rabaa maamulkii qof aan laga qaado xukunka halkaas inaan ku bilaawno halkaan ku xujino xagga ku xujino waxaan rabaa saddex qof inaan laga jawaabo aan su'aalaha weydiino halkan waa la leeyahay qof qaado mikrofon waay magaca magacaada السلام عليكم ورحمة الله. مقعد وأيوب سليمان كفار. وحنا هنقول كذا أخويان الصوماليين كذا. وحنا نسنا سؤال أمر رأي في حاجة إن مسح وصوتي حتى علاقة صدق تطبيقه هنا تسير. saddex xubin ee xubin su'aal aad weydiinaysaa su'aashaadaas hal darjo oo ku filan أيوة سؤال مهم. قلت مدحنا حسن الشيخ محمود ومحسن هاي والسلام يا ومدحنا الصوماليين وبلد وقت احترام الموجودين. أنت سكت برضو مدحنا كيس أو شعب سو هرمي ماذا أو وهذا مرة haddii arrinta laga hadlay hadda oo miiska saaran waa siyaasadda arrimaha dibadda iyo doorashada waa laba arrimood oo inta badan isku xiran marka waxaan rabaa inaan madaxweynaha laba su'aalood baan qabaa laba su'aalood madaxweyne wax farbadan baa ka hadashay wax farbadanna waa iftiimisay waxaa ka hadashay qodob ah zero energy cadowla-aan imaankumo oo waxaan ognahay Soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan weedaagay warintaan ma qabo marka in aan zero enemy noqon micnaheedu waxay ka dhigan tahay in aan madaxeena hoos u dhigno oo dad dalalka shisheeye u ogolaano masaalixdooda inay naga fushaan taas waa su-aal su-aasha labaad taasaan ku tusinaya su-aasha labaad هذا بلك أرميسا ذا وحاءات فرق المبشرة دور وطن لو الوطن وحساسا وكينيا ودول الخليج السعودي كينيا وحان قمنا هاي 2011 شهر دولار ميدان يضو international law جنسي أو غيبا دول السعودي في شهر دولار لكن قبال وطليها سيدو كله وحاولنا هاي
wadamada carabta sida Sacuudiga iyo kuwaas Imaaraadka oo kale iyo in iyaguna siyaasadda wargelaya su-aasha markaa waxay tahay haddii Kenya ilaa 2011 ay dalkan ku joogtay sharci darro oo ay lagu tumanayso international lagu tumanayso ma tahay miyaysan ahayn maanta inaynu kirkano oo isjeclayno wadamada khaliijkana 30 sano ayaynu daawanayeen inagoo burburka iyo ku jirna dhibaato maanta inay inoo tacaabud iyo arrimo dibadda lagu soo hosdambadaan sax miyaa ninkaas yes dhinaca adiga kuma siina ninkaasi ay عطفة شد روح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرة أنواع عبد الشكور حسن محمود عبد الشكور كله على عبد الشكور مرة عبد الشكور على سيد محمود والسلام على إلها مختصرة والدوالة طبعا صور هذا الشيء وحاولين يا مختصرها وقت يا توصل وقلنا sidaa darteed buuqna waa qaarkooda qabaan marka maadaama uu yahay madaxweyne qaran oo Soomaaliya ma laga yaabaa in uu qayb ka noqdo xalinta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ama xukuumadda iyo maamul-goboleedyada qaarkood oo qaba cabashada waa macsan su-aasha xada raadaan kaba waxay kala qaadaan waxaan siinaa ninka dambe Soysel. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا مع السلام يا مدحولي ورئيس الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن محمود وحاب مدعي هو مصطفى اللبان سؤال شعراوية ويجيب مدحولنا وكذا قوم يتبعنا سياستنا عليها الجدود اللغة والله والكاكا مدحولنا وقت الأسجول أما ضد الشخص تشارعها وحاولنا وقت جميل وقت هذا الصوت كمان مرة دور شديد وحسامة كلها والضمانة خليج تأكسير تقولنا عن بشرنا سيدا زفت وحكاية قاعدة عن مدحولنا وقت أسير وصوبين العالم رشاد فربنا الحرية سير يقول قاعدة دلو الراسة وحاول سؤال شباب عن مدحولنا والفيديو عن تجربة الفيديو ودور شنو صوماليا أساس كوها سياسيين تقولنا طبعا قوم الفيديو كل اسبوع يستوى عارف سياسة كوين oo ah arrin habeen madaxweynaha fikirkiisa gobolka galmudug uga qabaa وايا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيوب وما أيوب حكمة في عنو الصومالي أتشكت نما وركا وجن وركا وما قالوا لكن حكمة داس ماشي يكون بحذي يا ظروفية يكون بحذي يا الدنيا يكون بحذي مجوجنو قرني كوي لبعتنات مانتا ورن وحلا اسكو فهم سيو ور أيا وحلا اسكو فهم سيا دبلوماسية دنا ور مركا هدي أذن دجال من معنى هذا معها إن بحاكي هذا أمرون كساعتين أمر لغو تنتي أمر قاعد كذي معه دبلوماسية دنا كمد معه زيرو انمي وبرنسبل دلال بدنو الدنيا أنا أي كو أنفع لما ده أنك عمله كون نجا واوينو زيرو انمي outside economic reason سببات دقالة لحين الأول وقاطع الجربة أو سي أي دقالة يسوق ده وفرمان ويمال والبويب جيستان أوجد zero enemy outside سياسة أقاطع جرت أنك zero enemy outside أمنان كينيا كجرو جرتان كينيا كجرو وحين لما كجرو مركوا قضب وحن لا هاي محوا هاي مع zero enemy outside وقضب أدي مهم أو هن لقيت نزول كرنا قبا أنا مبدئيا سياسة ولا يجي رأي دوانا كرا
dad warmahooda wato ay ma karaan waa la istijaabinaya meeshay warmaheeda ay gaarsiiyaan Soomaaliya Kenya illegality sharci darrada Kenya ni aniga 2012 madaxweyne noqday markaan noqonay Kenya wadan si sharci dal ku joogo United Nations Security Council resolution iyo African Union resolution ku joogo aan anigu u imiday ilaa haddana sidaan ku ogahay marka ma ogi aniga mar ay sharci darro ku joogeen ay sharci darro dalka kula tunteen iyo waxaas iyo ima soo marin waa taan ka sheekeynay intaan xafiiska joogay waxa kale oo rabaa oo ayada inaan fahmo u baahan Kenya annaga choice aan annaga leenahay kulama diris kulama noqon rabitaan Kenya iyo rabitaan diris kuma ahin intaan mas'aladeena la laabanana intaan guurna bariga Asia iska ma degi karno markaan reerka isla joogo aan isdirno awrtaan inta rarnaan ka guuri jirno Soomaa goob cadaawo waa goobta inta dhaana ka tagi jirno kama tagi karno iyaguna inta mas'alahooda la laabtaan Latin America ma degi karaan laba option aan noo furan annaga Kenya inaan cadaawad iyo lugooyo iyo midba midka kale inuu lugooyo midba midka kale dhibaatadiisa inuu ka taliyo inaan maxaan ku iraahdaa aan siyaasad ay noo ahatay naga dhaxayso nabad iyo diris wanaag iyo iskaashi inaan ku wada noolaano midaas damba aniga aan door bidaya midaas dambana ma aha muxuu ahaay warankiisa yaanba ka tuntay ma ahane waxa horta waa ilooy maamaadaadii ma warankaaga gal warkaaga ma gal waxa barbar taalo warankayga aniga yaan baan ka tuntay ninkii yiri colaadoo dhan meera intaan iska dhigaan beer faruuq soo jeestay iyo tacab ninkii yiri yaa barbar yaal horta marka zero enemy weligeedii soo jiri jirtay warankayga yaanba ka tuntay zero enemy waay marka taasina waxaan qabaa waa sidaas Kenya cilaaqaad fiican naga dhaxeeyo masaalix naga dhaxayso amnigeena isku xiran dhaqaalaheena isku xiran 1 milyan raalli ahad dad Soomaaliyeed oo 1 milyan oo qof dhaafaya ayaa magan gali u jooga kumanaan kale Soomaali ana ganacsi u joogan magaalo kasta Kenya ku meela ugu fog jooga yaa dukaamada ganacsi ay ku leeyihiin joogan alaabta badeecada geeyaan soo war sidaas aan isugu dhaxnoonahay waliba annaga asaas ugu dhaxnoo iyagu boqolaal qof oo hoteeladeena ka shaqeeya ama macallimiin jaamacadaha ka laga yaabaa inay joogaan dadka saas aan isugu dhex jirno oo masaalixdeena ay saas isu dugsan yihiin waxaan heshiis fiican iyo cilaaqaad fiican aan ahayn option ay ma qabno Kenyana dabeeciyan iyo dawlad ahaanba dawlad agressive oo fargidin iyo wax riixdeeda iyo waxeeda ay badan yihiin ama ay adag yihiin ma dalkeeda dhaqaalihiisaan saameynay tourismka dalkaasaan aan baabi'inay wax badanaan kharibaad aan u geysanay oo Soomaaliya uga tagay raalli aan ka ahaanin annaga laakiin waxa kharibaad oo Kenya nooga yimiday oo inta noo yimiday waa yariin nolol iyo muxuu ahaa shacab wanaagsan naga jira Kenya xigmad tilmaamaysa inaan cilaaqaadka annaga iyo Kenya cilaaqaadkeena xumaada ma jiro xigmad tilmaamaysa oo caqli dugsan oo annaga iyo Kenya cilaaqaadkeena xumaada ma jiro yaas waxyaabo kale ra'yi duwanaa karna aniga meelo badan aan ra'yiga aan uga duwanahay arrinta Kenya Somaliland arrinteeda si u handal garaysa aniga kuma raacsan lama qabo ila ma qumana laakiin taas meesha adduunka ku dhamaanaysa ma aha waxaas wax ka waaweynaa intana dhex maray oo ayagu in dibsanayeen inay naga go'in cilaaqaadkeena ayna xumaynin safiirkooda ay naga qaadan inay la joogeen Kenya waa ogtiin waxay ku dacwootaa Soomaaliya badda laanka ay rabtaa haday ku guulaysato Kenya laan loo kilay naqanay qaftaran ku jirnaa
ayadoo dareenkaas qabaan haddana dadka kenyaatiga cilaaqaadna nooma goyn safirna nagama waxaan nalamana diririn ee diblomaasiyadda inay nagula macaamilaan ay go-aan ku gaarin somalilan qadiyadeeda waa qadiyad soomaaliyeed xalkeedana soomaaliyuu yaallaa diplomatic pressure lagu abuuro somalilan oo waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinaynaa la yidhaha nooma keenayso somalilan way sii fogeynay xaqaa'iqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamaayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo taiwan iyo china u miday lahayd china maa xoog ku yaryahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yartoo taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weyse united nation ka soo raacday inta ka barashar garay dalkii cilaaqaadka ka goosadha dhaqaalan ku siinahay wax kastay ku sameeyeen taiwan waa jirtaa waa joogtaa somalilan hal siyaasadeed oo caqli ku salaysan oo soomaaliyeed annagay naga rabtaa iyo inaan jeclaano somalilan noogu imaamayso noogana fogaamayso hadba intaan juhdi iyo dadaal gelinno qadiyadda somalilan ayay noo jirtaa marka meelaha laga doondoonayo oo laga raadinayo qadiyadda somalilan ma jirto qadiyadda somalilan soomaaliya iyo somalilan ay ka dhaxaysaa ayagaa laga rabaa in dhiiranaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya degan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufahooda iyo waxay tabanayaan aan ku aqbalno oo aan ku soo xerogelino annaga mas'ale annaga noo taalo iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa u soo laheen maantana waa kasii darow haynaaye kama soo raayo hayno saasheeg khaliijka ayuub khaliijka uu sheegay aniga ma oga khaliij ayuub meel cadow noogu ahaayeen ma aqaan dalkan muguu burbur ka dhacay wixii nin walba suuqa bakaaraha ganacsan waaye suuqa bakaaraha muguu ku ganacsan waaye dambiishiis yartaa kusinta ku qaatay dubay la degay milyaneeraan ku samaysay dubay soomaali ah oo maanta joogo shirkadaheena markii halkan sharciyad lagu rajistar garay markii la waayo xagga inta la geeyaa laga rajistar garay dubai waa wada degayin xarumay ku leeyihiin kambani soomaaliya ka jira oo significant oo macno leh oo aan dubay xafiis iyo xarun ku lahayn ma joogo jaamacadaha dubay imaaraadka ku yaalloo dhan ayaa arday soomaaliyeed dhigataa waa joognaa annaga waktigeenna cilaaqaadkeenna wuxuu gaaray dowlad maadaama yar aan nahay dowladda imaaraadka carabta dhulay intana siisay ay noo dhistay oo guri safaaradda oo xafiis oo 2 dabaq ah iyo guri safiirku dego oo 2 dabaq ah iyo hool weyn oo jaariyadda soomaalida lagu kulmiyay noo dhiseen waa joogaan maanta 1 2 3 aan dhihi karaa niman dhaqaatiir iyo injineer ah oo muxuu ah hilaalul axmar imaaraati iskuulaadka ee halkaan ku dhistay ay ku lahayd ka baxay dugsi sare uga baxay ee jaamacada inta tegay suudaan tegay ee dhaqaatiir soo noqday ayaa jooga dalkan oo maanta dadka soomaalida daaweeye waay isbitaalay fureen maalinka 400 oo qof oo dadka soomaalida meesha ugu nugul ah oo inta lagu daaweeyo daawadana la siiyo inta visit loo qaado daawadiyo free ana la siinayay xeray xagga noogu dhiseen ciidamada maanta aan shilsanayna qaar ka mida u tababareen ay ku qalabeen ay ku hubeeyeen xere ay degaanna waa horteeday ka dhisayeen qabyo waa weli waa taallaa ayadoo qabyo ay meesha ku taallaa sacuudi araabiya waatan maxaan ku idhahdaaye 5 milyan oo neef aan sheegay aan u dhiib geynay hooyada soomaalida ee baadiyaha degan ee muxuu ahay $50 oo muxuu ahay ay ka heshay waa kumanaan kuwa shaqaalaha ah muxuu ahay maanta noo hayo heshiis nala galay inay shaqaalo soomaaliyeed oo cusub qaadaan ay shaqo siiyaan yaa aniga carab cadaawad noo ah oo na dulminayso oo nagu taagan oo na dilayso ma arkin waxa la sheegaya waa huuhaa waxba kama jiraan wax ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan masar maantay joogtaa jaamacadaheeda aan dhiganaa ardaydeena military saraakiisheenna maanta joogta jaamacadaha iyo akademiyaasha masar ay ka soo baxeen oo militarigeena maanta qaarkood taliyaal ay ka yihiin xukumaan war dadka lagama abaal dhaca beenna lagama sheego propagandana laguma furo eritrea maxay noo qabataa annaga maxaa moogtaa dadka in caqliga laga xado ma aha isayas abawarki iyo dalkiisa eritrea soomaaliya maxay u tareen midowgii maxaakiimta islaamiga markay carareen ee aaresti magan geliyeen ay siiyeen meel inay
ورمانتا يا نلدين مركا إسايا صار ورال أو صاحب إريتريا حبيب جيبوتي عدوة يا نلدين جيبوتي إريتريا دول جيبوتي لا أيوه هاي ستو أسكر جيبوتي لا يكون مكان تايو إن أنك أو قرب استغنى هذا دين أحمرني أسان أدنى أنا ما قال عليك إنه ما أنت إيش عليك أربعة كلا ديار اللوج دابولا إذا ما أو إسرائيل أو محن كورا داي لوسي كورا جدل لوسي ودو إريتريانا إسكال إريتريا إدستيارك يسرتال مال يكفرك يمسي إنه عنق لقط الله له وردك الصوماليين يا من عقلك أنا لا حد به نفيك لسيه ناس سمعوا بحيتاس وحارب عبد الشكور وحيري أضيف الصوماليين ما دام هيلي واحد جراهيم حكى قيد قادة كرتان سيدي الهرتو حل يرادا منك dadku ku haystaana tahay dawladdu ayaa laga rabaa annaga way aragnimaan leenahay tajrubooyin soo marnay 12 guda aan ku soo dhaxnay ku soo kufnay aan garanaynaa waxaan ognahay meelihii wax nooga fududaadeen waan naqaanaa laakiin haddii nala warsado soo maaha waa tagnay waa dalbanay war waxbaan ku dari karnaay waxaanay hanalaga qayb geliyo hanaloo yeero hanala warsado maya adika waxa dadkii horaadkii wixii hore lama rabo lugooyad ahaydeen intaad ahaydeen kaasaad ahaydeen meeshina looga baxay iyo wixiina lagu yiri waa wada ogtiin hadda inaan dib ugu sii noqdo ma rabo marka halka qaybaan ka nahay inaan markaan dawladda shoor wax ugu sheegno markaan weynay inaan idaacadaha iyo jidka la soo istaagno halkay qayb ka tahay guutaal uu weydiinayo oo guddiga iyo waxa uu sheegay halkay qayb ka tahay qofna raali looga noqon maayo lagumana ixtiraamayo wixii qalloocan wixii saxan wixii qaanuunka dugsan la isku ixtiraama wixii qalloocan la isku ixtiraamo dalkana dawladnimadiisa mas'uuliyadiisa annagana waana saaran tahay adinkana waa idin saaran tahay muwaadinka Soomaaliya waa taas midka shalay jidka taagnaa doorasho rama dimuqraadi dhahay mas'uuliyadaas uu gudanayay mas'uuliyada idinka saaran dalkan waxa saxda iyo waxa uu ku toosay inaad sheegtaan waxa uu kulliitay wuxuu ku dhumayaan inaad bidaan mucaarad waayo iyo dib u socod waayo iyo waxaas raaliga guutaan waxa dadka lagu aamusiyo hadda ka horna dhowr maraan sheegay inaad ka kortaana rabaa kacaankiya wuxuuna baray dib u socod waayo afmiishaar waayo kan kaas si dadka loo aamusiyo qofku aanu ra'yi dhiiban ra'yigiisa ugu cabira afmiishaar waayo dib u socod waayo yaa lagu dhihi nimankii ka dambeeyay murtad waaye iyo dhammaan kelmadahaas dadka ra'yigooda inay cabiraan oo maskaxda ka xoroobaan loo diidayaa maskaxda ka xoroow ra'yigaaga oo sax hadaad boqoray wadanin oo xabad ridaynin inta kale oo wax ka reeban malaha waa tii kasta dabcan been ina sheegtid waa ka reeban tahay qof muslim ah taa kuma banaan laakiin ra'yi wixii ah rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay intuu uu karaamo badnaa ugu sharaf badnaa ugu heybad badnaa ayaa la weydiiyay yaa rasuulullaahi warkan aad leedahay ra'yi miyaa mise waxyi waaye ra'yi waa markuu yirina ra'yiyaa la barbar dhigtay waa maxay sababta anaga saaxiibkeen maxamed cabdullaahi farmaajo uu noo dhahayo waxaan idiin sheegayaa dhegeysta laakiin waxaan samaynayaa arkinina wuxuu samaynayaa la qabdiina waa sheegayna waa maasuuqi مصطفى فرجلينتا دورشده ee qadiijka aniga waxaan u baahnaa jilcis badan u baahnaay ma fargelin horta hore u warramay waa la isfargelinaa leeyaan lay fargelinin haddaad leedahay waa guuray planet earth ka guuray xidigta Mars degay meel bini aadan deganina degay idku fargelinaysa malaha planet earth degan tahay midka xoog badan iyo midka daciifsanba waa ku fargelinayaan laakiin adiga laga rabaa mechanism ina abuuratid fargelinta midii fiican aad la macaamishid midii xun aad iska oodid albaabkeeda adaa laga rabaayo maxal ii fargelinaya maxal iiga dhacaya ma jiraan doorashooyinka khaliijka ay fargelinayaan aniga hadda wali waa aad uma fahamsanin mana arko waxa soo haray gobolka Gadow 18 gobol ay kamid tahay oo jamhuuriyadda federaalka ah oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu qoraayo
gobol ka mida waayo 7 degmay ka koobantaa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda markaan ahay waa baxay waa tegey gobolkan tegey dadkiisaan la soo fariistay waa soo dhageystay concerns badan ay qabaan iyo dareemo ay qabaan ay ii sheegeen wixii markaas taagnaayo habboonaayo ka xalli karnayna waa ka xallinay wixii markaas mustaqbali ahayna dee aanan xalli karinna mustaqbalkan dib loogu dhigayo lama xallino maanta marka gedo waxay ka tirsan tahay 3 gobol ee jubbaland ay ka koobantay mid ka tahay federalismkeena iyo dowlad goboleedadeena dhismayo ee urbanka ah mid aan dhexdeeda tabasha ka jirin ma jirto mid kasta dhexdeeda tabasha ka jirta hirshabeelle beledweyne waxa ka yeeray waad maqlaysaan maxaan ku raadayay galmudug muxuu ahay waa ogeedeen inta gaalkacyo iyo cadaadi iyo dhuusamareeb iyo wax la kala taagnaay iyo weli waxaba meelaha qaarkood ka jirood garanaysaan koonfur galbeed sidoo kale weli waa taagantahay mas'aladeeda maxaan ku raadayay shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo meel iyo dad badanaa kuuseen qabaa taagan meel aanu tabasha aanay ka jirin ma jirto madaxda dalka waxaa laga rabaa tabashadaas inay xalliyaana laga rabaa sida suurtagalka ah oo markaa lagu xalli karo inay ku xalliyaana la rabaa oo aan ahayn xoog xal ma keeno sidiisaba qof soomaali ah maanta waa raacdayn kartaa laakiin berri asagoo intii ka carab badan oo ka xanaaq badan oo ka dhib badan kugu imaana oo ay u badan tahay inuu ajnabi wato arrinta gado wada hadal in lagu dhammeeyo oo wada hadal laga galan qabaa waa gobol ka tirsan jubbaland dowladda federaalka inay jubbaland kama tirsana annagaa ka talinayna ay dhahdo suurtagal ma aha sababta maamulka jubbaland doorashada ka dhacayso garbaharey aanay u maamuli karin dowlad goboleed galmudug midda ka dhacaysa gaalkacyo ay u maamuli karto oo dowlad goboleedka koonfur galbeed midda oo la rabo inay ka dhacdo baraawo ay u maamuli karto yaa ii sheegi karo mandiqa ay dugsan tahay iyo caqliga ay dugsan tahay iyo sharciga ay dugsan tahay yaa ii sheegi karo gobolkaas dowladdan waa dumiyo haysaa dowlad goboleed jiray dumiyo haysaa cilaaqaadkaani dibadday ku xumeeyo haysaa waxaa ka socdaa waa dulmi dadka reer gado ayaaba dulmi ay ku tahayba oo lagu joor fulwaan qaba aniga dowladdu dib ha uga fiirsan madaxweynaha weliba si gaaray usii taabanay ceebay kusii tahay isaga meesha ay ka taabanaysana waa garanaysaa halkan waxaan ka siinaa axmed haadi halkan 5 qof 6 qof taagan waxaan siinaa ninka okiyaala sito soo horeeya gabadhii xagee aaday hadaayo aye ninkaas hadaayo maasanid mudane madaxweyne magacayga axmed haadi ayaa la yidhaahdaa arrinta foreign policy aan ku bilaabayaa markii tijaabo lagu geliyo intaad dowladda adiga gacantaad ku haysay arrimaha ugu waaweynaa dhacay waxay ahaayeen arrinta badda iyo arrinta iiraan labadaba markii dib aan u milicsado iskoor fiican gaar ahaan arrinta badda 100% ayaa ku siinaya arrinta iiraan markaad safaaradda cayrinayseen afgaanka qaadanayseen aada uma fahamsanayn laakiin markaan dib ka fahmay fiicannimada iyo suurtagalnimada kooxo kaloo bambooyin watoo dagaalamay inay dalka soo baxaan oo fikirka shiiciga ku faafo waxaa ila muuqatay inay ahayd go-aan saxa taana waxaan ku xirayaa saa la socotaan hadda qaraxyadan iyo dilalkan socday joogtada aha fikir diimeed oo sacuudiga laga keenay 70-aadkii ayuu maaragtay ayuu ka yimid marka haddii shiicu ay soomaaliya ku faafi lahayd waxaa ka dhici lahaa wax oo la qiyaasi kara maaha arrinta laakiin aan rabo inaan si marka laga tago inaad nin siyaasiya tahay aan waxaan aaminsanahay inaad ku jirto dadka indhaargaradka ama dadka loo yaqaano intellectualist arrinta la xiriirta wadamada deriska ah saad la socoto marka laga hadlayo ra'yi biyo su'aal waa su'aal weyn waa su'aal weyn markii aad siyaasadaha marka iskoolada lagu daraasiyo kala arkayso waxaa jirta topic la yidhaahdo irredentism irredentismku tusaaloo kale hadda
gobolka Soomaalidu waa gobolka labaad ee ugu weyn Itoobiya Soomaali ayaana degan anaga markaa Greater Soomaaliya ama asaaskeena waxyaabaha ku dhisan waxaa kamid ah goboladaas inaan dib u helno Kenya NFD baa iyadoo dhinaca kale ka haysata marka laga tago xaaladda hadda anaga ku jiro nugiilka ah ama fail state-ka laga tago tusaale kale intellectual way ama qaab u fogaan aragnimada tusaale kale gobolkan qaabkii loo qabsaday Minilik 2 aduu 1887 waa 120 sano ka hor u qabsaday expansionistiis u yimid suurtagal u tahay markaas goboladaas oo kale markii ninka Soomaaliga uu rabo inuu si istiraatiijiga u helo oo maanta uu ka hadlo oo aan laga hadlin maanta waxa ka socda ciidamada Eritrea lagu soo daabulayo xuduudda la geenayo ayadoo oo Kenya ay Kismaayo joogto waxaan loo jigaano marka raskatuurnimada iyo waalidaas kale laga tago laakiin si intellectual marka u fariisto masalada waxa rabaa bal see Kenya NFD ma xalaalayna hadda ka horna waxa jirta marka adiga awood joogtay laba dhacdo midna jijiga ka degtay ana kritiga ina qaataan raba marka siyaasiyiin ama inta garabkaas jijiga ka degtay horta caawa talaan macna soo raba marka la waxa jirta Kenya dad soo daabulaysa in adiga inta Nairobi ka tagtay aad dad badan aad ka hadlin dadku marka qof madaxweynaha hadda qasho wadareed ay jirto macna wuxuu u taagan yahay aniga oo dhan noo taagnay marka waxa raba bal Ethiopia iyo Kenya gobolada Soomaalida ku jira horta sida loo xalinayo si oo fogaan aragnimaha oo siyaasad kale horta qodobka waran qodobka oo arrimaha gudaha dood halkaas aad u bilowday aad aan u jeclaystay oo aha siyaasadda arrimaha dibaddu waxay ku dhamaatay halka arrimaha gudaha ay kaga bilaabatay arrin doortada markaa u imana haddii aadan cadda markii la doortay uu si peaceful ahaa u wareejiyay xilka Cabdishiid Cali Sharmaake Allah naxariistay oo qulqulatuhu ku dhintay maxamed siyaad bar xogta intuu boobay 9 asagoo laga ereeyay uu ka tagay xamar hadda qaasim intuu yimid 2000 asagoo oo waxba geysanin oo si حتى الدقة اللي يوري لكن سبيس فلها ووتر حكمك عبدالله يوسف ويمد وحكمك أصبه هو بيلو قراعي حمر كتجهي والشريف سببه كل شيء عبدالله يوسف هاد شريف كي يمد وعبدالله يوسف هو بيها انتو حمر كجساري أما فكر كيس هو بيها كجساري سبيس فلها حكم وري جي هذيك أتفكر حكم سبيس فلها وري جي هذا فرماجي حكم كي أفرتني سجال بريمة ولا فرماجي هذا إلا هذا أنا ما مقتني وأنا يقاطع وإن حدا الصوت يهم مقنعة ما ندعي عليها وحرم بهرت باتك أي معنى سمع القبائل يكون سمتها ضدنا وحي أنا قاب سمعت قبيل يقول جوا ثلاث سؤال معنا what's going on here عرفت أنا عرفت إن دي معنى سارة السلطة وحق سوحر يا مركب أنكو قبلنا example كله هذه فرماتشو هذا ما تحر وين هذه الشيء أرن عجيبة أنا صاحبنا واحد جرا أرد بحر وين هذه الشيء ما تام طبعا وقتي بحر سي فوق أرجعنا مركب هذا سي هذا كل مقتل حالة دون وأذكت هاي جذنا عيدنا لقود عبولة دورسين وحال تاجي مال أو خطرة وضعنا عن كهذا الله هنا وضلت لقود بعدي كران إن النوسو جد هذا متعلاني هذا مثل ما تنسى قفل شيء نيجا ويا شيء ما كان هذا الشيء هذا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أحمد حسن دعالة الحين والسلام يا سؤال ويديني والفقود هاي وقتي حكم كتشوفتي وحتى أجنا مركب صوماليا وكينيا ودحية هذا واحد شيء إن جبلان علاقات في عن لها يد وحبنا أدوك التناسشي سوف يحلونا إن كينيا حريق في عن علاقات في عن لها يد جبلان وقت جنبه marka sideeda maamulka Jubbaland iyo madaxweynihiisu idin kala shaqeeyay arrimihii badda iyo muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay maadaama xagaan xiriir adag la lahaayeen adna aad sheegtay xiriir fiican la lahaayeen meedinkayda la safteen oo Kenya la saxnaayeen taashan weydiinay waa mahadsan yana ka dambeeyay السلام عليكم مقعي ومحمد عمر علي مدحوين وكفر حسنا هنا سؤال كويديو وحانا قبل هذا السؤال xilligii adig madaxweynaha aad ahayd waxaan ka mid ahaa shaqaalaha dawladda waxaa ka maqnaa muddo 7 bilood ah ciidanka xooggan waxaa ka maqnaa 9 bilood intaas markii laga soo tago shakhsiyan ana waxaan ka tirsanaa dadkii deganaa dhulkan hadda la dhistay oo meeshaan ah waxaa muqtaar electionka maya su'aasha waa qabaa hay'ad celin maya electionka iyo diblomaasiyadda waxaan la xiriirin ii kaadi su'aasha waa qabaa madaxweynaha waxaan rabaa inaan weydiiyo fursad iyo galaw
marka madaxweyne dhulkaas waxaa deganaa shaqaalo fara badan iyo ciidan fara badan qaarkood markay u baxeen bannaanka waa la dilay oo way dhinteen qaarkood weli waa nool yihiin qaarkood inta adi aad joogtay dhinteen ay lagu dilay ee shabaab ay dileen mudane madaxweyne waxaad ku sheegtay warqadaad soo saartay waxaad ku sheegtay dan guud in loo isticmaali doono dhulkaas looma isticmaalina waxaa degan dad badan oo ka tirsanaa xukuumaddaadii waxaana laga qaaday ummad badan oo soomaalida adiga aad mas-uulaad ka ahayd mudane madaxweyne hadda waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxtinimo waxaana rabtaa in lagu soo doorto maxay kaa fili karaan dadkii shalay dhibtaas ay ku dhacday qaarkood la dilay qaarkood dhibaatada ay ku dhacday waa mahadsanta حب سؤال شيء موضوع حير هاي محن ربا نكاس جاء في قاضي يسال هذا اختيار هذا مهندسان تالي ما ميكروفون حوجي مرة ميكروفون حوجي وهي ميكروفون حوجي ميكروفون حسينا نكاسي حضرنا ميكروفون تعمل في المجلس حوجي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ونور الدين مقعيق ونور الدين waa u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo madasha doortan su-aasha koobaad aan weydiinayo qayb ahaan madaxweynaha waxaa u malay hadalkiisi baan jawaab ka helay laakiin dhammaystir baan u weydiinayaa federal systemka soomaaliya ma muran baa ka jira ama ma laba qolo oo waxaa jira isku haysta qolana ay difaacayso mabda'a federalismka qolana ay difaacayso mabda'a centralismka labadaas miyay jiraan ka khibrad ahaan iyo xogtaada madaxweynenimo su-aasha kale waxa weeye awoodaha dowladaha casriga ama modern stateka astaamahooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qaybinta ama kala saaridda awoodaha maadaama oo adigu aad ahayd madaxweynihii soomaaliya hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka miyay kala madax bannaan yihiin marka la eego systemka soomaaliya mise waxaa influence gareeya oo awoodda oo dhan ay gacanta ugu jirtaa hay-adda fulinta madaxtooyadu ma ka madax bannaan tahay sistamyada oo dhan anoo mid gaara sheegaynin inay iyadu maamusho xarunta baarlamanka taas oo mar kastaba aan u arko inay base u tahay dhibaatooyinka dowladnimo ee soomaaliya oo dhan waa mahadsantahay madaxweyne waa mahadsan tahay axmed oo badda iyo jubbaland weydiiyey waxaan rabaa axmedow waxa sida ay yihiin wax walba in loo sheego waaye waxaan rabaa inaan caddeeyo hadda ka horna waa caddeeyey qadiyadda badda intay taagneyd aniga aan joogay dowlad goboleedka jubbaland marna qadiyadda badda naguma soo qaadin nagalamana hadan marna weligood madaxweynahooda iyo nidaamkooda intay ii yimaadeen madaxweynuhu badda maasaan la yeela ama maasaan laga dhaho ibidkood ima dhihin weligood ima dhihin markii meel la joogo lagu soo qaadane madaxweynaha maanta joogaa joogo oo waagaas madaxweynayaashii dowlad goboleedyada saaxiibadaha ninka keliya weli jooga waayaba wuxuu dhihi jiray arrintaas dowladda federaalka ay u taallaa xuduudo waaye shaqo aan annaga ku leenahay ma jiraan jubbaland haddaan nahay wax naga khuseeyo oo annaga ra'yi aan ku leenahay ama aan doodeeda ka qaybgelayno haba yaraatee ma jirtuu dhihi jiray marka arrintaasi sina jubbaland aniga ma haddana ma arag xataa meel jubbaland weli ay uga hadlayso laakiin dee nin waxa waaye haddii lagu saantiranayo jubbaland waa kees gooniya laakiin axmedow jubbaland meel ay weligeed badda uga hadashay iyo meelay badda tale ku darsatay ama ku faragelisay ama kenya ugala macaamishay oo aan aniga ogaay intaan jooga ama hadda haddaan soo tegin aan maqlay xataa ma jirto taas waa ka bannaanaayeen wiilkayga maxamed arrinta dhulka maxamedow dhulka horta dee dalku wuxuu lahay hay-ado maamula national security councilka ayaa inta fariistay deliberation sameeyey amar security awgiis soo saaray oo yidhi garoonka waa xirmaa documenti loo soo qoray ayayna keeneen hay-adaha amniga loo soo qoray oo laleeyahay garoonkaani kama soo degi karaan falaajyada noocaas hadduu sidaas yahay marar ka mid oo basuuki waxbaa meesha looga tuuray waxbaa laga carqaladeeyey dhulka horta in la kiciyo fikir dadka isaga soo hemdaacadna ayna sidaasay ahayd
waa qodob aniga marka la ii keenay oo intaasi national security council isku raaceen waa authorize garay dadka in dhulka laga kiciyo duurka ha lagu daadiyo ma dhihin dhul kale oo dowladdu ay leedahay ayaan dadka hala dejiyo dhahnay guddiyaan u magacawnay nimankii xildhibaanada ahaa oo dadka meesha jooga u doodayay duqi magaalada ee maalintaas meesha joogay guddi ka kooban yaan intaan u magacawnay aan dhahna dalka dadkan dhulkaana laga kiciyey dhulkaas hala dejiyo walaalow gacali intaas kadib wiilkaygiyow madaxweyne xasan sheekh ninka mitirka inta qaato dhulka cabira dhulka jijiida ma aha madaxweynaha haddii khaladaad ay dhaceen ciddii kaloo shaqo ku lahaa la weydiinaa laakiin dadkii dhulkaas laga kiciyey siday u dhammaayeen dhul weliba ka weyn dhulkii laga kiciyey iyo boosas ka badan boosaskii laga kiciyey ayaan annaga u asaan garayn oo dowladdu ay lahayd dhul dowladeed ahay oo laga qaaday hay-addii la hayday oo sharci kale laga soo saaray in laga qaado dhulka oo dadkaas la dejiyo dhulka meeshaasaan ku ogaay baaritaan rasmi oo dowladeed iyo wax haddii la samaynayo sababta oo dhulka dadkii haddii dad la dejin ay jiraan loo deji waaye ama dhulkii danta gudi amniga loo bixiyey haddii la bixiyey sababta loo bixiyey waxaan u malaynayaa baaritaan kale iyo howlay u baahan tahay dowladnimo in loo baaro laakiin madaxweynuhu intii uu ku lahaa intaasay ahayd waana documented aniga wixii doorkii aan ku lahay waa qoran yihiin waana yaallaan waxaa soo haray taas marka ayada dhulka meeshaasaan rabaa inaan ku ekeeyo arrinta federalismka dad diidan iyo dad ogol maa jiro debate soomaaliya ka dhex jira oo federalismka sax ah iyo ma ahay dowlad dhexe xoog badanaa saxa la leeyahay ani meel uu ka jira ma garanayo dad waa jiraan meelo badan uga doodo dowladda xoog badan dowlad gacan bira leh dowlad saan ah dad ku hadaaqo oo micnaheeda haddii la weydiiyo dowlad gacan bira leh macnaheeda maxaa waaye haddii la yidhaahdo aniga ogeyn sida ay u sharaxi karaan iyo wax ay ka wadaan laakiin nidaamkan federalismka dowladnimadu waa shuruuc iyo nidaamka federalismka waa sharci dastuurku ku yaala haddii dad Soomaaliyeed oo nidaamka federalismka inaanu danno ahayn qabo argumentigaas waa inay inta soo rays gareeyaan Soomaalidu u soo bandhigaan inta laga aqbalo maalintii federalismka la qaadanaya sidii loo qaatay si lamid ah inta la isugu yimaado federalismka ka noqon loo yiraahdo laakiin hebela xagga ka qayli iyo degme hebela inta ka qaylisay iyo reer hebela xagga ka qayli waxaas ma bedeli karaan waa reality nidaamka federaalka in Soomaaliya daawo u yahay aaminsanahay dowladnimadu meesha ka dhowdahay wadada ay ka dhowdahay wadadaas inay tahay aaminsanahay dowlad dhexe oo xamar ka jirta oo maxaan ku laawi cadda iyo raas gamboori raas asayr gaarto waxaan u malaynayaa maanta inay dirin tahay oo gabadha neersiga oo bulshada iyo askariga booliiska iyo macalinka maxaan ku raas iskuulka elementarka dhigay xamar ka bedesha ee laawi cadda u bedesha ama muxuu ahay raas gamboori u bedesha inay muxuu ahay wax lagu mashruuc doono inay tahay anigu ma qabo marka nidaamka federaalka waa nidaam in la koriyo u baahan yahay hal maalin muxuu ahay kuma istaagayo qaabkii aan samaynay wixii noogu xigoon samayn lahayn way noo caddaayeen haddana in la sameeyo waan qabnaa in hay-adahaas nidaamka federaaliga ee institutionskaas dowlad goboleedyada la xoojiyo sharciyadoodii la dhammaystiro laga bixiyo muxuu ahay waxyaabaha ku meelgaarnimada iyo wax kalamida ku hayo ayay ahayd waa noo dhiman tahay laakiin nidaamka federaalka nidaam dastuuri ah oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku yaalo waaye ninkii ka leexanayna waa nin wax غير dastuuri inuu sameeyo rabo waa jirtaa dhaqamada dawladdeena maanta jirta qaarkood marka la micneeyo inkastoo ayagu officially aanay u dhihin waa nidaamka federalismka waa u yahay dhaqamadooda marka la micneeyo waa u ekaan karaan in ay nidaamka federalismka diidan yihiin laakiin de maxaa la jiray waxa dunti wax lagu qariyo waa ka weyn soo ma ninkii diidan jidka inuu la soo istaaga laga rabaa dadku raacsan waa helaya dadku diidan waa helaya laakiin inuu dhiirada u dhaha federalismka dan noogu ma jirta waa inuu ka guurno waa inuu dhaha laakiin hoostaan ka laabana waxa waaye waxaas waa ka bariidin la sheegi jiray waa marka intaas ka imaado walaalkay Nuruddin waxa kale uu yiri dawladda separation of powers dawladda yani awoodeeda si u qabsay waa run annaguna intaasaan qabnaa dawlad kastoo casri ana oo dimuqraadi ana intaasay qabtaa laakiin Nuruddin waxa meesha yaalla waxay ahayd saddexdii hay-adood dhismahoodii iyo jiritaankoodii aan naga kala maqnay annaga waxaa u nimid baarlaman la soo magacaabay waxaa kaloo u nimid golo wasiiro oo baarlamankaasi uu sameeyey hay-adda garsoorkana maba samaysnaynba maba jirinba waxay u jirtay
nidaamkii oo aan ka soo guurnay garsoorkii ku dhisnaay ayaa weli jiray annagu markaan nimiday marka maadaama uu baarlamankina jiro fulintiina ay jirto waxa ka maqan ay yihiin in sharciyadoodii iyo waxoodii la dhammaystiro baarlamankana waxbaa ka dhiman la dhammaystiro u baahan yahay executive kalasidiisa wixiisa u dhammaystiro baa dastuurkana waay waxaan daynay annaga inaan samaynay hay-addii garsoorka hay-adda garsoorka dastuurka wuxuu qoraa 9 guddi ee madaxa bannaan ee dastuurka ku qoran waxaa ka mid a mid ka mid ah oo la yidhaahdo adeegga garsoorka guddiga madaxa bannaan ee adeegga garsoorka dastuurka ku qoran meeshaas ma dhaafsiisna intaas dastuurka ku qoran wax kale oo barbar yaallo ama hore oo tilmaamaya hay-addii ma jiraan waxaan bilownay annaga horta inaan dejino sharcigii lagu dhisi lahay establishment law sharcigii dhisayey hay-addaas horta in la sameeyo sharcigaa la soo sameeyey golaha wasiirada soo baasgareeyey baarlamankaa la geeyey baarlamankaa ansixiyey anaa la ii keenay waa saxiixay wareeg waxaa lagu soo saaray muxuu ahaaye faafinta rasmiga ah sharci oo dalka ka jiru noqday sharcigaas iyo dastuurka iyadoo la dabaqayo ayaa waxaan ka shaqeynaa haddana dadkii 9 qofood in haddana ay shaqo galaan ay yimaadaan dhibaatooyin oo dastuurkeenna markii la qorayay aan aad looga fikirin waa jiraan oo farsamo matalan maxaa ka mid ah 9kaas xubnood 4 ka mid ah waxa waaye dad xafiisyo jira ama inay jiraan ay tahay madax ka ah oo inuu xafiiskaas madax ka yahay awgeed ayuu commissionka uga mid noqonayaa qof la soo xulayo oo la keenayo oo la waxaynayo ma aha 5na waa la soo magacaabaya waa la keenayaa sida loo keenayana way qoran tahay qaara xukuumaddu keenaya qaara madaxweynuhu keenaya qaara ururada looyarada ee dalka ka jira keenaya waa sameynay ururadii looyarada u yeernay keenaan dhahnay waxaa laga rabaa qof waa isu tageen waa tashadeen lawyer associationka puntland qof inuu soo magacaabay dhaheen lawyer associationka puntland qof soo magacaabay intay keeneen warqadii kusoo lifaaqeen ururkii looyarada ay ku indoor garaynayaan sidaasaa golaha wasiirada lagu geeyey kuwii xukuumadda ay keenaysa annaga keen waa keennay 5 qodoban keennay 5 qofood iyo CV-yadoodii oo isla socda ayaan baarlamaanka xukuumadda u gudbisay maxaa dhacay marka 4 ex officio xafiiska daraadiis meesha ku joogta waxay kala ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo asna guddi madax bannaan ah oo dastuuri ah guddoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliya waa joogaa guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ma joogo maxkamadda dastuuriga ma jirto guddoomiyihii oo ururka xuquuqul insaanka ma jiro laanna ururka commissionka xuquuqul insaankaan jirin soo marka ma imaan karaan dadkaas dastuurka meelo kale iyo ka laabanaa jirto arrinta ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah samaynteeda iyo guddigan samayntiisana khilaafaa ka jiro waxaad gashaa su-aasha ninkeeda aan maxkamadda dastuuriga maa soo horeyso si uu guddoomiyada guddiga u fadhiisto mase guddigaa soo horeeyo si uu u dhisa maxkamaddii dastuuriga ahayd mas'alo yar oo khilaaf la iskaasoo waxaa ka dambeeyey dastuurkeenna meesha xeer ilaaliyaha guud oo garyaqaanka guud ay ku qoran tahay dastuurkeennana vershinka koowaad originaalka ingiliish u ahay waa la turjumay kii ingiliishka ahayna xeer ilaaliyaha guudaa ku qoran kanaa ku qoran whatever correction ay u baahan tahay standardska adduunka ka jirana xeer ilaaliyaha ayaa ka mid ahay garyaqaanka waa looyarka dowladda ka mid maaha marka taasna meeshaasay maraysay laakiin dastuurku waa qeexayaa 3 hay-adood waa kala madax bannaan yihiin madaxweynuhuna odayu u yahay 3daba hal qof oo haddaay aan ilbisaan siinayaa ninkaasaan siinayaa waxaa la gaaray xilligii oo gudaanadka barnaamijka haye waqti ma hayno madaxweynaha waa salaamayaa magacaaga magacayga waa cabdulaahi axmed aadan madaxweynaha waxaan u malaynayaa waxaa igu dambeysay hotel safari isuu meeshaan iga galay caawa haddana igu horeysa marka horta waa salaamayaa
halkaas yiri ila taliya saan ola talino halkaas u galay caawa ay ugu horeyso sidaas u fakanaya horta caawa waxaan rabaa inaan halkan ku qabto maadaama hore u waayay taas waa sidaas mudana madaxweyne waxaan rabaa inaan ku weydiiyo يعني عقباتها ugu badan adiga iyo Sheekh Shariif aad soo marteen waxay ahayd maamul goboleedka iyo federalismka Soomaaliya sida uu u yaalo waxaan ognahay maamulkan hadda aad sheegtay ee jubbooyinka dhibaatooyinka aad kala kulantay iyo inaadan raalli ka ahayn arrin danu kuu qasabtay inaad kula heshiisay caqabadii aad ogeyd oo adiga ku soo qabsatay inaad maanta adigoo madaxweynihii Soomaaliya ugu sareeyay soo noqday inaad la safato maamul goboleedyada ayaga ahaa oo federalismka dhibaatada ay ka soo gaartay maxaa kugu kalifay su'aashaas waa mid su'aasha labaad waxa weeyaan maadaama madaxweynihii Soomaaliya aad ahayd markii koobaad aad ku guuleysay markii labaadna aad sharaxdo ku guuleysan soo ma qurxanayn meeshaan lagama dharige inaad fursad dadka kala siiso ama tiimkaadi aad siiso qof kamid aad soo sharaxdo tiraahdo war hebelow adiga maanta ku wadanayo adu meesha aad ka bayrto dictatornimada waxaa kamid ah inuu soo taagnaado qofka inuu meesha jooga ma aha inuu soo taagnaado dictatornimada kamid oo yiraahdo wax walba ana sidii ibliis marka soo ma qurxanayn taasna inaad saas ka dhahdo tan saddexaad adoo raalli iga ah ma laba su'aal qaadatay oo baatan suugay meeshaas corruption inta kale waa okay laakiin meesha ibliiska meeshaas meel munaasaba ma sidaas awgeed waa maatan cabdullaahi saaxiibo badana aniguba aan iga dhumayo mugaan meesha kale aan waaye saaxiibadii iga maqnaayaad ka mid tahay waa ku faraxsana inaan ku arko horta waa mahadsantahay waana ku salaamayaa waxaa soo hartay walaalkay aniga jubbaland i dhigtay federalism inay dhigtay u malayn maayo inaan marna afkayga ka soo baxay mas-uulka dalkan jooga Soomaaliya asagaa dhibka soo doontay waa dhib waa challenge noloshana qofka waxaa qofka challenge-ga aade ee qofka muriixa oo waxa raaxada la iska aado aniga qof uma aqaano weligeyna wax walba nolosha aniga madaxweynimada soo doonashadeedii 12 challenge oo iiga horreyso mid walba intaan soo galay kusoo guuleystay ayaa jiray tanna inaan ku guuleysan karaan aaminay وانا كقوليسي وحي إيجاه بونين هرت واقف في الشلاي كانوا جوب نظام الفدراليزم كان عبد الله وراء الشيخ وحنا والنظام أنا قبل أن أكون أحسن إنه في عيا شلاي تكمل جوب جوب لا وحي كمل أهلي دول قبل هذا مقول اسمين لب كنا جا قبصدي وكان بان جا قبصدي لب أيضا أجارة يدك بكير أجارة من ذا نجا ما قبصنا كم أنا قبل وقضى madaxweynaha maanta jooga laga rabaa dhibka inuu ka dabaasho oo sida saxda uga dabaasho madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka custodian of the constitution waa qofka u xil saaran dastuurka jamhuuriyadda inuu ilaaliyo dastuurka jamhuuriyaddayna ku qoran tahay nidaamka federaalka ah daciif waaye iyo weak waaye cid ka tirsanaa eed qabtay iyo waxaasoo dhan waa arrin oo valid ah oo la aqbali karo waaye لكن جريتان كنظام كفدراليزم لما خلق الجلي كرو لما أنا وحي كرو سبب كل في سنة أنا ما بقرتبه وحرر وقتها واحد ما قد فوق عصمتها يا الله وحي كرا سبب هالجبر وسديدي طبعا كمية من العيون أنتوا نبي إنه تقفش قشطو أنت كل عرّ واحد كل في أنا ما فاهم سني قبل هذا ما أصير واحد جبلان كذا عين قبل هذا ما يكذا عيان واحد جار أو جبلان كذا عين من الجيران مركا أنا أحمد عبد الله ومحوها يكون مقنع سني أرنتاس نظام الفدراليزم كان نظام أنا إلى قمان واي مركا وعنقبة مشكلة مالك اللي كجبتها فدراليزم كماها واحد كلام مشكلة مالك اللي مشكلة كجبتها نظام الفدراليزم كان مدحنا الدولة ده مدحوينها يقوع ليسا قريسة وزيرنا كل وحان ونبقى آدي أدوسي وارنا أوعى إن أرنتاس وأرن أنفعنين لباطي للشيء لباطي كلام ويسير للي علاقات كأن هذا الدرس كي حميسي ويسير حمين مالك وكسير العليسي قلي إن قداس وجوسي سعران قبا منك الرد ومنك مركي وحبس عنكرين أنا سكسي أبكيسن إلى الجباية وحي وحبس عنكرين جريه وياه ملعوين وحلها الجريان له تاس ماشي وقارية مدة محاول سو تاج أحمد سو ما تاج نورت أنا سلام
قانون شرعي عن شيء الدستور وذلك ليه دستور كحول قرية قف مواطن في الصومالي وإحنا وادور كرا وأنا لا دور كرا صدّن كالسنة لبعتن يلا بس سنة وظروف أذق أو ذلك سوق جوجي أنا دحت جوجي ومالنا مال وقبحن وذلك قلنا أنت وريجي وديبويشيسين يا نبض كشقيني إن كسؤال أنا فرحان رجع قال شقي جرّك بدل ما كمل ماشي إن عاو فديان يعني وأركي إن أي تاي challenge جال ماشي كجرا إن للضون تقول حليه ضد النوع قال إني آذان إني سحتاي أو أنا بين مش حماد وأنا وعن صور مرة دولة جمال أيضا لقى حرارة وقف هذه أن جل قفر بقى أن جل وعن قفر عسر هاي أيضا لو سكت دريرة لو سكت الأرجع ضد وفعنا يسوء هذه يعني إنك سوت تجارة مش إن آذان سبب تقيد كآذان قبا قلب كاس دستور كاس أنت أصلاً جوجي والملاح نقولي أن أفر سنة جوجي دورك أنت كسو شقي أو كسو رفاضي أو اللي كسو إيدي أو وحول بيقول صوت عينا كاني أنا حكتين كإلالي ولي معها أنا واربي بلا صومالي إن سيجو أفر سنة كله إن سيجو واجع له لكن حقيقة من سنة دي أنا اللي حاجة يتوجي وصوت دعي وصوت بوبي اللي إن الجوجو وحقيقة خير بدناتي إن أنا جوجي doorashadii aan keenay barqacad waa la igaga cod batay sidii nidaamka qoriyay meesha inta soo istaagaan dhahay doorashadii waa la iga adkaaday dadku madaxweyne doorteen maanta laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda waa kana macruufay ahayd waa la yaqaan waa Donald Trump bay karay haddaan rabo inaan Donald Trump noqdo waa yeeli karay maya muxuu ahay hebla inta ka hadlay sheekh hebla xagga ka qayliyay inta laga waxay geeda sax uma dhicin doorasho waxba kama jiraan waa dhigi kara cod iga qayl qof iga qayl dheeraa kar lahayd ma jirin laakiin karaamada iyo sharafta Soomaalida iyo dawladnimadeeda ayaa dhaawac ku gaari lahaa anigana dhaawac shakhsi ah uu gaari lahaa oo qof ahaaneed leeguma aqoonin weligay mar ku dhig inaan noqdo iyo macaan ka inaan noqdo mana ihi weli hadda maanta Soomaha weli aniga nidaamkii dastuurkan ku taaganahay challenge-ga inaan xalliyo rabana waa iga sii hor muuqdaayo qabyo qofkeeda dhameystira bilaash u badan dhihin wixii qabyada ahayo cawada dhan la su'aala cawada dhan su'aalaha la isku soo celcelisay waa qortay kulli qabyadii iyo dhameystirkeedii ka hadlayaan cusub kama hadlayaan marka miyaa weli waa ii muuqataa inaan meesha ku noqdo wixii dhammaystira oon hagaajiyaan rabaa haddii maya naga joog la yiraahdo xarka koos ma ihi anoo madaxweynahan ka joogay anoo madaxweynahan inaan ka joogo ii saalan tahay laakiin waxaan rabaa inaan kusoo gunaano saaxiibkay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 48 maalmood dalka soo joogay oo madaxweyne noqday annaga 22 sano anagu soo joognaa madaxweyne noqon waana ka tagnay baasaboor ajnabi ah iyo meelan u dhoofnay meelan aadna ma qabin isagaaba wax badan u dugduugan yihiin waxaan qabaa dilla Soomaaliya ka bacdi nololaha jirto nolol qurux badanaa jirto hadduu meesha ka soo tago annaga nala dooran waayene madaxweynayaashii horaa nala dhaha waa isla joogaynaa doortana annagaa sharaf iyo karaam inaan huwino madaxweynihii hore dhahno u ogol kuwo kaloo naga horreeyna waa la joogaan waa la joogi doonaan marka meel cidlaa soo dhici maaye meesha haddii ka tag la yidhaha ka soo taga joog haddii la yidhahda hanoo jooga waa rabnaay sidii joog la isku dhahayo leh ha loo dhaho joog bes intaasaan rabnaale waxaa su-aashii cabdullaahi weydiye walxaa ka dhima saaxiibadaa maa dhisi saaxiibaday waa taagan yihiin waaba kuwa ila tartamaya maanta safiirkaygaa ila tartamayo wasiirkaygaa ila tartamayo saaxiibkaygii gaarka ahayn saaxiibo ahaynon ayaa ila tartamayo waa furan tahay maanta kuwo kale inay kusoo biiraan ila tartamaan waa ogolahay laakiin adiga joogta waa xoogaa waa igu zaa'id waa maasanta cabdullaahi waaya intaas ayaan inaan kusoo waa mahadsantihiin waa idin mahad celinayaa sheekadaani ma dhammaato waaye foorum iskaloo badanaa jiro waa isku soo noqnoqon doonaa haddii alla yidhaahdo anigu ma caajisaya idinkaa ka caajisanina inaan isu nimaado haddii alla yidhaahdo
aad iyo aad u mahadsantihiin gabdhaha waana u cudur daaranayaa waana u mahad celinayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa doodtan iyo kulankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa mahadsan tahay adinkuna waa mahadsantihiin dhegaysigiina iyo kasoo qaybgalkiina iyo qaybta aad ku darteen waxaa noo taalla casho si fiican loo casheeyo madaxweynuhu waa mahadsan yahay aad iyo aad iyo aad iyo aad